لما يتمكن إنك دلوي الله نبغي محمد هل الجبال الأمر يا مرك هذا الأمر فيري وكاسا هذا حشك اللي صاروا لقى بدو لقى دسي مرك أنت لقى جري أو أرجع لقى حري خلاص أنا والله قالي مية مع شيء سوريا قول قاسة تقني عينك وصفر الله ويجي بديني هرسس كبحي أنا أقول الحكومة جريمة وبين شلي ولا سعود من قدومي قبيلة ده كوجي سما اسكتلك ما هو خبرني ما كانوا وحرنتهاي waayeel nolosha lagu gubay muuqaal argagaxleyna laga duubay isagoo dhex rafanaya dhimbilo hulcaya dad la qalay oo xubno jirkooda ah la jaray lana suray faras magaalaha tuulooyin iyo ceelal dab la qabadsiiyey oo basbeelay iyo falal kale oo maangal ahayn ayaa muujiyey in laga talaabay xeerarkii xakameynta iyo dhaqankii suubanaa waxaana dhammaan dhacdooyinkan argagaxa leh dhowaan ay ka soo ifbaxeen degmada Wallaweyn iyo deegaano ku xeeran oo dirir sokeeyay ay ka socdeen mana ahayn wax la filan karay in qarnigan ay ka dhacaan geyga Soomaaliyeed jariimo intaas leeg oo quus iyo rajabel gelinaysa malaayiin u haraadan inay arkaan dal amni ah oo ka kabtay colaadihii ahliga iyo Soomaali il ka dhigtay qabyaalada qeyrkeed ka reebtay una midowday cadowgooda diidan yagleelida qaran cudud leh geesiyaasha ciidanka xoogga dalka oo ku baxay ka jawaabida falalkan iyagoo haysta waaran maxkamadeed iyo amar ahaa in nolol iyo geeri lagu keeno dadkii ku lugta lahaa ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan qaar ka mid ah halka kuwa kalena la baadigoobayo maanta ayaana halkan oo ah degmada Wallaweyn lagu maxkamadeynayaa eedeysanayaashan oo ay wehliyaan kuwa maqanayaal ah loona haysto dhacdooyinkii argagax lahaa marxuum Isaaq Daawud Maxamed oo ahaa 60 sano jir dhimarka ka xanuunsanayay muddo 33 sano ah ayaa ka soo fakaday guri lagu baxnaaninayay oo ku yaala Balidoogle waxaana uu gacan galay maleeshiyaad u abaabulnaa habbeeleed oo aana qabil u socday way xirxireen waxayna u geysteen jirdil wadareed iyagoo ku jiiday mooto nooca xamuulka qaada ah oo qaybteeda dambe ay ku xireen kadibna waxaa xigtay inay gubaan isagoo nool muuqaal ay ka duubeen ayaana la arkayay marxuumka oo la rafanayo xanuunka holaca lagu shiday jirkiisa iyo mar uu noqday lafo u ekaaday dhuxul deegaanka Dudumay oo dhaca duleedka degmada Wallaweyn ayuu faldambiyeedkan ka dhacay galabnimo Jimco ah oo ku beegnay 7 bishii 11aad ee sanadkan waxaana dadkii geystay maanta nagala jooga Xasan Boolle Isaaq Daahir Muqtaar Shibow Saalax Xuseen Cali Cabdi Xamiid Cabdullaahi Siidow Axmed Saalax Abuukar Qaasim Cabdi Xasan Abuukar Yuusuf Cali Axmed Maxamed Daahir Cismaan iyo Cismaan Cabdulla Caliyow sagaalkan oo ay weheliyeen 13 kale oo maqanayaal lagu raad jooga ah aynu ku jirto haweeney lagu magacaabo Muslima Cabdi Kuusow ayaa waxaa hogaaminayay Abshir Cabdo Xasan Made Maxamed Siid Cumar Awbiime iyo Xasan Boolle Isaaq mid kasta oo ka mid ah kooxdan ka kooban 20 ka eedeysane ayaana lahaa doorar isugu jiray jirdil joorfal gubid iyo karaamo xumeyn mid dilkaas markuu dhacay oo marta wadaadkaas oo warta soo galay mar alla markii meesha loo qabanay onaga ma joogan xaafado u jirnay onagoo guri amuur taalo oo maaragtaa meesha ku jirn aan dhaynin gaajara la soo qabtay ku basmaloogaada meeshii aan ku soo baxnay hadda soo baxnay wartii laga qabtay war kala la geeyay wixii oo digowtii akhyaartii oo meeshii aan ku baxnay waa tagnay isagoo marka lugaha ka xiran oo hal dagan u dhafan aan dhahanay markaan ninkan waa qabateen waxaad u disheen inaan la qabado degmada la geey waa waajibkeena anaa dhaha marka saada garabkiisa saalsoomida inta wajiifa marka aan qor qaarbina wata run sheero nimagta been maxay lixdan saal sano jira aniga wixii runtaan ku hadlaa marka qor qaarbina garabka ugu jiray markaas la dhahay Xasan Buulow muslim haday tahay naga leeho wiila kurtuna soo tuureeyay mada inta ii mariyay markii saas lii maray markaan waa ka dhagaagnaad nimankii isla imaan dhalinyaradii kale iyo meeshii tuun ilmi iyo naago ama meeshii tuurihiino oo usagoo nool yahay warta dhaxdeed dhaxyaala oo moota meesha loo keen moota la saaro duurka laga dilo hal soo gubin hal laga soo baxo iyo isleeyihiin abartaan ka tagno mar al markii ninkaas oo ay kala aadeen duurka la aadeen ona xaafada u galna hadd ilaa hadd lagu joogo 69 sano jira 114 waa umara waana u dhaaraha bartii lagu dil iyo bartii lagu gub hadd ishay masaaran ilaa hadd lagu taagay si ali lugay waa ay ka yaa dhahaya qofka dhahaya waa la guba sana la sameeyha yaa way oo adigana ku dhahayo aniga hayn mahayno ninkaas oo maarta xaafadu joogay oo maarta ciidanka ku mid ahay oo adiga kulay bahbeen iyo maalin nin walba qoriisa lagu taaganay
dagaalaa sii socday beerta dhinaca beertiis lagu xabadeeyey ninka gubaay dhaxaayo marka oo mar kale makiin beerta makiin farsho lagu dilay marka lan walba habeen imaan qoryaa ku taaganay qorta oo gubaay la dhaxaayo ilmaha dhaxawada oo yar yar ku waay wijigiisina haddaan ka fiirina tabara waay aniga hindhaha ka markay ashwiin kama daraad madii usaga Abdullahi itus Hasanow ninka ma tagaana ninka ma intaan kala waa yaqaana wijigood yaa xiray oo gacmaha iyo lugaha ka xiray maya markaas uu joogna xaafada jaran ku lahayn markii la xiraray xaafadan ku jirno markii wartaas biyaha laga wado yaa soo xiro keen horta ninkii soo xiray inkii marta war ka maxay laakiin nin la yiraahdo abshir madax oo ciidamada guud ahay meesha uu joogay marka ninkii oo marka ilmihii iyo ciidamadii meesha joogeen ii kale isay baxeen marka anaga warka maxayna xaafadan ka baxnay nin gaajal soo qabtay beesha saloo hayay meeshii aadna hadii aynin waan barba hadii bilaayada noqosad waan ka soo laaban markaad imaanayda yaa kula socday aniga waxa ila socdo markaas laba qofood oo heer koonfur ah oo dugoow ah nimadaas qofood dhinacaan la istaagay dadka bulshada dhexda anaa ninka dhex galay anaa war muslimatihiin ka leehada yaa warkaa diiday marka nimanka warka diideen nimanka hadda oo maqon way magacood ninka warka iga diiday maxamed sayd umar allah raaday biimo kullu ma ku maqlee oo ishal gamay markay biliishii gaman waa ka tagnay marka maxamed sayd umar muxuu ahaa madax ma u ahay dadka maya dhash ciidamada ku tirsanay ninkaas ciidanka ku tirsan yahay iyaaka meesha joogan oo korweerdi ku jiraawa ku tirsan yahay ما أصلا نبضون يواصل معه. أنت نك اللي دلها يلا جراعة واتجنت. أنت دشي درد مركنين كان التوصية بدل إساق أو التوصية سد هذا عنك فضوا وجد واقع سواء لكن من كان كلام مكساي متك توريد كل فناي أو جرجع السوق النول بقول واتجنت بقول قروات المش أو دنيا لا أنا حتى بهندا اللي يقولي ورهم باك أو كاربنا وتواقع حباي مرك إريد أك بحي مكاني. adiga goobjooga aheed camera ku qabatay صح ayad marxuumkoodii ka da'ayo ayad hortiisa taagnay كو بريمدا مس markii anaga tagay oo nimanka wariyalka haasta meesha taagnaayeen markii qoryaha meesha taagnaayeen كو markii ninkaas markii la keenay warta ma lagu soo banaa soo una xaafad soo baxan warta uu imaad wartii usoo ka jiro camera lagu duubay markay aad faanyaa iyagoo saan loo dhooman yahay markaas aan dhaxgaliyo wariya muslim midkiin gadaal oo bax anoo daba qaylinayo markaas la wariya ka dhaxbaan adiga goobtaas dadka taagnay ma taqaan ninkii oo ku dhifanay dhagax oo u shaqo dagar ku dhifanaya maya marka ku meel ugu siin meesh warta oo ko bariim soo galaayo lagu soo dakhray soo noo marka warta biyaha ku jiro lagu soo dakhray war kala faarq ee la geeyno una warta faarq ugu tan soo dakhirkiisa dhiigay oo lugaha iyo gacmaha saan uga xiran aan uga tagno marka soo saan dhal iyo bilaal meel joogsan aan leeyahay siliska ku xiran ee gacanta ninka ku haya magaciis umar isgo maamway maxamed ila masaarta ninka ku falan masaarta ninkaas waxa lagu soo dhufada xigga lagu soo dhiftay warta kala way oo ko bari meeshii una xaafada ku jiran kulaano oo soo dhiigiisa baayaa u tagno markii inta markii oo meeshii ka gubayeen oo daraad oo ninkan itoosiin waa isku meelkii isku soo baxeen marxuumka mootama lagu jiiday maya oo ma lagu jiiday moota la saaray usugo oo moota la saaray usugo nool amood ku ridideen waa la baxeen marka boodka afkiisa la saabid ordaaskii la tageen oo markaas inta soo aadaba warka ma hayo laakiin daraad madiinka ay toosay inuu waali qanaade madaxiisa iyo wajigiisa dhabarkiisa ayuu soo jeeday ninka walka saayay marka hal mar saay soo fiiri markaas widaad kan oo hadda bisiin jiro saldhig siin roogo manuur gooba wiilkiis waa dhaay marka kanne oo tooreysa u dhufanayna liiwaan sheeno waa wajigiisa usoo kan dhaga ku dhufanayn waxa la dhahaa usoo dhaha magaciisa ay ka maqan tahay naanaystiisa abaka daawida la yaa gubay dabka yaa ku shiday meed may allahay alla dabkaas oo sheekar dabka iyo dirkiis usoo naftiisa jiro labada dirkiis iyo dabka allahay ka loo waan dhaara aniga waxa ku dhafat aniga allahay allah nabay muhammad ana meesha u tagay markii bilaan isku aan ka soo laabtay aniga allahay allah nabay maad waxa soo gaan man wax gudu oo masaakiina meesha saaliga allahay allah nabay 114 marataas kutaab jamaa ku taagsana أنا فرق مرحوم كاس فرق عن أن ليه سان وتجن أم قرآن ليه سان وتجن قرقي قرب كي وجرو وأنا كلابتني تاس أنت بقولي تمن فرتاكم مرة
هو كل صعد حيكون لفتين war nimankan isoo aan dhammaan ma ciyaar ahayn gadaali aan daba hadii la sii kuuri wada naqan leeyahay kala ayaal oo yar yar oo nimankan idood iyo meesha u tahay ay balaan الله هيك أن نبيك محمد ميل أن روجي مرحوم كاس جانتيس كركي هدي أن الديرت كتاب كلام مرسوي الله هيك أن نبيك محمد مجد جوب جو ما هي مركي كو أن روجي ميل روجي أنا مش وجو أنا جانتيس إن كتابنا ما يقعد هذا متابع لكن أولى كل شيء الله هيك أن نبيك محمد أنا كرشي تابن تاسا كتاب لا قعمها ما تحرت قعمها ما تحرت الله هيك أن نبيك محمد أنا كرشي أنا تابن يا كتاب كمله هذيك قرب موت ها على شو عود يا سوق بتبع حوم كور الله هيك أن نبيك محمد ميلاس لك هاي سيدي كسيد معن إدي سوق قبط أن الله هيك هل كاد جوب جو كهيت قف مسلم هل لو قدري ولو جوبي أدونا جوب جو قد هيت كاميرا سوق قبط هذا أدوك كين المرحوم كأوضة سوق قبط يا سوق قبط نشيط مركز أنا مجون سو لهاي الميل أنا أتجا معن مجون مركز مجوك تبع نتاس أنا موتيلي هاي موت جاري موتي مش صار بوته موتدا نك كوجي ده بيتك أديك مايا تي معها بيتك موتدا لما سعره مرحوم مايا هنا جب أنا يجي هذه موت ده نسار هل موت اللي جوك تبعه هل موت أنا موت أنا هو تمشي تج مركز وانا ولاي سؤال ده بدأ مش جو مركز ثاني وفيري كيف أسوء أنت كفوكسنا هنا صار تاس بدأ أركب مركز أنا وسولات موت ده سويت موتدا موت جدود المتع موت جدود كنوك واي موت ده كنوك واي كنوك ميتك مركب مسارته اللي يقول فاي ياك كل فنا متى ورث تام أو بيها ما تنقل مركنو إذا البوها ماشان تجي أفكار أو سان مركن يجي سنتك صودا أركي باب صوفيري ما قاسوا لا بتلعن سيلا يلوك هرب صوباي ماشي لودي ماشي موتر ساراي إلى يلوك ما أركن لوك تما قلنا مركب كيس مايا أنت اللي دعواك فول بس ماشي لك جو ماشي لك مساروي دمبغاس عنيد من اللي إلى إسرائيل معلم ديمير أي أنت مسلمين أحد التلفون يدير معلم كان ماشي يا سيد أنك كان مسار كله فديلي ده دمبغاس أنا أنت إندي أد ماشي حكي صوت أنت بيتك ماشي لوك مسايدك الجمعة وهايتي خد بي هايتي خد بي أجيدي يوم ماشي تورين يا ماشي أجمر يا تورين طاوين محاول ماشي أننا ماشي نشان سانواي بلعان يودل سدبلت رو رايان وأردايان ومايان أرميشة محاول ماشي ما يجري إن مسلم يفوت آفا ديت إلهي قبصدا كل شيء دم بالعانتي برر لي برلين راوي لما قالكي كل نيرتي يقدودان ماشي دودان ماشي فوت آفا ما حاطوك علوي إذا دتك دبعتها أي كوسة ما هنا يعني مسلم ديوات كذا مجيلك إلى بالعانتي بقي المهي يوكوي كل وبرر أنت وربني تأر نقد مسلم إلهي لنديتني هتقول ما مسلم وسقط آفا قانتي والمكجيسين مسلم كون فرحكم مرا بالعانتي بتبرر مجلكي نيرتي كل تبرلين واي أنا دي صار مسايتي هذا يوم مشي توري مسجد كانوا سكوبه جماعة هايتي سلادة هايتي واحد قانتين جيش الدبوة بقولي من أفرت إلا ميركز لا أنا أردين دين برلي أرديت بشيء معلم واي لما مسلم هاد جودا معيو دين تدين تقول أنا دين تقبها مسلم ما ساسا تقبها أنا هاد مسلم هاد جودا وكان حفيزك حرالنta ciidamada qalabka sida oo maxdarkan ku soo bandhigay wixii maalintaasi dhacay dadkii ku lugta lahaa iyo kaalinta mid kasta uu ku lahaa ninkii waa soo xirxireen asoo xirxiran ee waxay keensadeen tuulada Dumay ninkaasi falka foosho xun ee loo geysan doono maxkamadda u soo bandhigaya ayadoo muuqaala iyo ayadoo sawir ah sawirada prestation kan ka sameeyay waxa ka soo qaaday nin walba oo eedeen loogu jiro ama makanaha ahaado ama goobjoogaha ahaado sawirada aan soo bandhigi doono intaas isugu jiraan macnaha nin aan falka geesanin sawir aan kama soo qaadin nin walba oo sawiradiisa inta aad ku aragtaan falkoo qayb ka ahaa halkaan waa markii koowaad ay soo qabanayaan ma soo qabtay gabadha saas waxay fadhiiso ninna waa kala caadi qori ku haya mid qori ku haya waa oo biimo waa kala caadi sawirka dhexe waxa ka muuqdo geeskan sawirka dhexe waxa waaye oo biime iyo ninkii Xasan Buulo waay sawirada ayadoo nadiif ah ayadoo muuqaalan shidi doona Xasan Buule Barrow iyo maxaa la hayaa abshir inta muuqaalada waa laga arkayaa sawirada way ku wada jiraan sawirkan yaa waa Abbas Eeno Maamo waay dhagax ayuu soo qaatay waa ka dhagax asagoo soo kala taagsanayo iyo ku dhufan raba marxuumka halkaas yaalo
ninkaas halkaas yaallo oo tabarta aanan haynin oo la garaacay la jir dilay gacanu sax hataa hal gacan hataa ma nuuxin karo dhagax weyn ala soo qaatay madaxa looga sii deynaya dhagaxi waa kana sawirka koowaad asoo sii kala deenayo dhag waa kana asoo madaxiisa ku dhacay sawirka labaad ku soo qaadnay hal ninoo danqada hataa kuma jiro macallin dugsiga ahayuu leeyahay hadda ninkaas quraan wuxuu ku leeyahay masaajida waxaan ka soo akhrinayo ku leeyahay khudbadii jimcada dhiig muslim ah ayaa hortiisa lagu daadinayo yac kama dhahooyo inta qof oo meesha taagan qalqiga taagan meesha waa soo bandhigayaayo hal qof oo yac ka dhahay malaha qof islaama waay qof kala dilooy war nin gaal haddii xataa saas loo dilaayo inaad ka celisaa waajib ku ah wadal gudoomiye ninkaas hadda dhagax markuu ku dhufta kadib ninka ag taaganna tooreeyo gacanta ku wataa qortaas oo kaga bireena fiiriye waa kaasa horta isagoo tooreeyda gacanta ku haya tooreeyda waa dhaldhalaalaysa mujida markaana waa kaas halkaas dhunta oo kaga qabtay oo kaga bireey magaciis liibaan abiikar umar allaha waa la yaqaana shacab waa degmadu degay maamulka degmadu waa kuwana lama soo qaban inuu dhagaxaas weyn ninka ku dhufto waaye liibaashiinane tooreeyda ninka ku bireey waa foolxumada meeshaas ka dhacaysa gudoomiye fiir madaga ninkaas ba iska caawin kariya maya wax ka dhicinaya ma lahan intaan goob joog ah nin walba waxba ku dhuftay marxuumkaas ajir in loo helayo amal ma taqaanaadi ninka waaba meeday uu yaalay ma laga dhaaf foolxumada ajir in laga helayo amal ninka darbaaxa ku dhuftay ajir inuu ka helayo loo kala orday wax kala soo bandhigi doonaani niman mootaalayaal meeshan ku jiray waxba ma geysan hadda dhahayaan mootadii ku jiidayaan waatana mootada saddex lugoolayda ah waxa lagu jiidoyaa marxuum isaaq daawud muxuu halay waaba nin xanuunsan oo waalo dhimarka la wax uu halay mala shacab waay guriyo ka soo fakaday moota lagu jiidoyaa mudan gudoomiye fiiri mootadii askale labadaasna leh in dhinac laga soo qaado ilaa dhinac kale dhinac lagu dili doono lagu dhameystiri doono lagu gubi doono lagu geenayo jiitaan dhulka lagu jiidoy wax ka dhicin way mala waxa daba cararaya u jeedid waa tuuladii oo dhan nin walba wuxuu wataa wixii uu ku dhufan lahaa wataa xanuunka fiir gudoomiye ee leedahay qof walba bal asaga iska soo qaado booska isaaq daawud uu ku jiray qof walba xanuunka ee leedahay asaga iska soo qaado baad mari lahaa oo lugtana ka xirnaa lahaa gacmana ka xirnaa lahaa wuxuu uu dareemi lahaa oo dareeno okay lama jiidin hadii la dhaho oo mootada laguma jiidin hadii la dhaho muuqaalkaana shidaani waa nool yahay lugta laga xiray mootada lagu jiidaya meesha lagu dhameystir lahaa dadweynaha ugu badin ay joogan la geenaya mudan gudoomiye xasan buule wuxuu sheegay waxaan dhahay amal maamulka lagu wareejiyo qoryo wata asaas soo qabtay ma ku wareejiyo maamulku soo qaban kara ninku uu keeni kara taliyaas lagu wareeji kara ninkaana la soo qabtay labada dhinac is dagaashan yihiin oo kala badbaad u dhigi kari ma sameenin wuxuu raadinayay cid kale oo ku soo dabaxta uu raadinayay wariyaa walaalka sheeg nambarkiisa ninka dhahay waa kana waa xasan buulo waa ninka dhahay walaalka sheeg oo magaciis hebel hebel la dhahaa nambarkiisa sheeg nin waaran waa nambar xogooge number aha وآموسا number ما يقال ما يقاني له وعلى قراعة ولا جردلة توريا لو رفنا إلا بنزينك أساق شوي بنزينك حسنا كشوي ولوجونك أوكي مقال كان مركم هو عدنا مرحوم كالله قلنا حريسته إن الجديد وعدنا محلي نمك وكنا أصوتنا على الجديد وحكوا دلنا بنانك إن الدلواب القرشين إنه نولا ما ولا قرشين با نكان قربها هذا هايو نكان قربها هايو أو قرب عدها نك الحراي ظاهر واي نكاس صور كلابات نك نرك عدوته ماذا عدله يا واي حسن بولو واي ما تاجنين ماشي نك اللي وجراعي ماشي اللي وجردينا وكله وبنتيس وكان قدومي صور كاس أو جدان نك قرية وتو تما عله شالك عدوته معبوسته وته يا واي أنا ما صورنا ماشي كل شيء ماي فيديو كان حصورني وكنا حسب بولواي نك الحيرو يا واي صاحب كيسواي قرت أنت على سارة هراتي حسن بولو يعد حوق دي واي ما كده هاي صابته إن الدلان وابو طلع قلمه إن الدلان وحبت كل فتان معها إن جرجران وابو طلع قلوانا جرجران يا واي مكس ماشي على تصور كان وحد تاجن قولي شورة تاجن قولي شورة ماشي فلس يا واي نك كان ملح عدله والساوند جود أركوسين واك حسب بولواي نك هالكاس فدي لك مدوة يا واي تليه واي تليه عيدا كان واي أبشر واي أبشر ماشي فديو نك كان كحيين كيسوا ما كان ورئيس يا كسعودة نك كان نشتك بحرفته ورئيس كسعودة
sheeg waa markii la leeyahay walaalka sheeg magaciis hebel Allah telefoon numberkaaga sheeg yaa wareysanoy ninkaana wareysanoy ilaahay wuxuu xaarantinmay dhiigga qofka dhiigga mir'aadka ilaahay wuxuu xaarantinmay laakiin kuwa waa banaysteen inuu gudoomiye ninka dhiig baxa ay mujada labada lugood ka xiran xanuunsan dhimirka laga haayo oo hadan la wareysana la leeyahay sheeg muku dileynay noo sheeg walaalka telefoonkiisa saasoo leeyahay saasoo hadlooya codkiisa aad tusna shabaabku maxay dhaamaan dadka ka sameeyaan mudul gudoomiye waa isku mid shabaabkan waa bireey kana waa gubaa kana waa bireele waa bireey gudido hadan ugu sii daray afshira fadhiyo hogaamiye ah xasan buula fadhiyo oo ku xigeenka ah barro xuseena fadhiyo umar isgowa fadhiyo oo biima fadhiyo abakay daawuda fadhiyo mansuura fadhiyo aadeya fadhiyo maxamuud abdullaah fadhiyo yusuf abukaya fadhiyo kulli waa fadhiyaan meeshan waxa laga shuureen la habka loo jarjar lahaa loo gubi lahaa laga shuureen waa mudul gudoomiye ilaahay ku dheershay islaamnimada taala waa kana markaan sawirkan waxa cadeynaysaa in dilkiisa la qorsheeyay laga soo midoobay lagu tashtay sidii la sameyn lahaa maxaa la sameeyay ood aan la soo qaatay mudul gudoomiye fiir ood aan la soo qaatay waa la dul saaray marxuumkii baazino ku shubay xasan buule kadibna tarqa la qabadsii yaa tarqa qabadsii aad iftax guduudo waa qabadsii tarqa waa maqay nasiibxo lama soo qaban nimankii soo qaban lahaa ayaga difaacay maxaa soo qabanaa aftax guduudo yaa waay ninka muuqaalka duubay hal gubo dhahayo hal gubo oo dhinaciisa gubay waay aftax guduudo waxaan muuqaalaha oo raad xumaha ninka duubay asaga waay ninka baraha bulshada soo dhigay asaga waay dadka adduunka jooga markayna fiirsanaa marka maxay arkayaan soomaalida kale wadanka ka baqan maxay arkaan war soomaalida kale xataa ku nool Soomaaliya dhaxdiis maxay arkaan foolxumada dhacaysa la arkaa wallahi raali kama nin ilaahay raali kama nin ilaahay dhiig muslimka meesha lagu daa raali kama nin anaga waa dulmi waxa la sameeyo inta gudoomiye waa wax foolxuma ugu waa inay Soomaaliya ka dhacdo wali ma dhicin gabadha noo eedeysan gabadha muslimo aan lahaa waxay ku eedeysan tahay meedki suurad xumeyn meed maxaa meeshan maxaa ka soo haray waxa ka soo haray dambasti iyo lafalafihi marxuumka soo haray waa la karsaday mudul gudoomiye sida malaay amal loo dubto mudul gudoomiye marxuumka intaas ka soo hartay inta ka soo hartay ee qori soo qaatay markaas dabada ka gelisay qori dabada Allah uu uraaya amal dabadiis ha uraay ninka waa dubatay haaba ku haray mudul gudoomiye muslimu hubaysan tahay ma hubaysan wala soo qaban kara lama soo qaban because tol ahaan فالحمد ما يشان كذا على المسلمين وحنا سمينا اسمه مقال كذا صوب بندقة مدير قدومي ولا سوق بنكرة ما له سوق بنون مقال كان محل وأركا أو بيم والوأركايا بر والوأركايا ظاهر والوأركايا حسن بول والوأركايا مقال كان أنت عليك معنا هذا نيك كمان أيوه ظاهر وا قرقي سوى تواكس قرقي قفوا ودي بنايا حرق وسوق بسرعة وسكوت الحلا وسكوت جبنا كان أو بيم وسجدوا أو فنان جدود كوتو nin waa kaas uu ku istaaga fiir mudul gudoomiye laga qabanayo xasan buule meesha waa taagay waa la haraantino ya fiir mudul gudoomiye ma taagnin uu yiri meesha lagu soo qabto kana be xasan buule kana wuu hogaaminayo abe asaga hogaaminayo qabta dhooy abshir meeshan laga dhooya taliya war taliya aan ka amar sugno waa kaas abshir waa taagay asagana mudul gudoomiye niman la yaqaan Soomaa muuqaalka ana sheegoy ana sharaxo be oo biim waa kaasa abshir waa kaasa xasan buule waa kaasa daahir waa kaasa barro waa kaasa kulligood waa kaasa mudul gudoomiye intaas aniga hadda sheegoy oo aan ka aqoonsado muuqaaladooda raggi meeshan amniga ka ahaa si u fahmi weynayaan waa kana hadana waa la garaacoyaa muuqaalka dhagaxa lagu dhufanaayo oo tooreyda lagu dhufanaayo oo la gubaayo mudul gudoomiye wax la fiirsan kara maaha waa kana hadana halkaas ninkan madaxa u duubantayaa waa macallinka waa macallin dugsiga ahay masaajidka qudbad ka soo akhriyay meesha uu taagay fiir uu ku dul dhaanteenayo marxuumkii uu ku dul dhaanteenaya ninkaas cimaamada wato asagoo hal fiiri waa isla markii hadda uu wato mujida waa la garaaco fiir ninka la garaaco day waa lagu dul dhaanteenayo mudul gudoomiye fiir macallinka la sheego uu ku dul dhaanteenayo fiir mudul gudoomiye ilaahay ku dharshay fiir marka hadda dhagaxa la soo qaadana fiir waa kana dhagax fiir nash madaxu ugu dhufta fiir mudul gudoomiye koo kala tooriyo soo qaatay liibaasheene macallinka waa dhaanteenaya ma ka celinooya waa ka celinaya ilaahay ka cabsida dhooya lagu lahaa been waay dhinaciisu ka dhaanteenaya waa kana be hal gubaa la amraya marka hadda la amra fiiri waa kaasa hadda xashka la saaraya waa la gubaya mudul gudoomiye dadkaan hadda ani aqoonsanayo ma dad la aqoonsan weynaya
ما ضد سوق من كرنا وأكون هو تقارب على سوق قبتي تلي أصلي وكم تسيء أمانه وكم مدين تلي أصلي يدلعسين إلو دلعسين ومدين من القدومي لقتي زمان عشان تعالوا الجري مسار سوي اللي وجود على الجري مسار وحفل كاس جيستي مدن القدومي فالحمد قارن وأكوانا قارن مقالد كجرا ولي ومقيين وارن كود محكمة دراسة جرني أمر سوق بشهستاني ما كسرت adeerka marxuumka la gubay ayaa garsoorka garmaqalkan ugu waramay ma nin fayaabo ahay mase nin jirano ah nin jirino ahay oo madax loogu jiro ima soo jiraya 33 sano jiriye oo xirnay waa naga dhumay awow naga dhaxayo naga aan weyni maalintii kala gooyni maalintii kala 10 saac markii la yiraahdo isaaq daawud waa la yiraahdo gariir lagu dili yadri weeradish hormaad maqashan ninkii waa la dilay 10 saac oo galabtii ama qalin oo jumca ميديا لقى سود نكاس ما يشتغل كل نت ساس أنا الله ساس أكون مغلي صدق سنة أوجري سو صدق هذا مدح الله أوجري yuusuf aadan xuseen suuley waa xubin horey uga tirsanaa qawaariista haddana ah qabqablad dagaal isaga iyo maleeshiyaad uu hogaaminayay oo dhammaan maqanayaal lagu daba jira ah ayna ka mid yihiin cabdulaahi madyarow ismaaciil maxamed abuukar sayid cali cabdalla cali maadey iyo maxamed aadan ibraahim nuunow ayaa 27kii bishii sagaalaad ee sanadkan u baxay argoosi qabiil waxayna isku ekeysiiyeen qawaariista afka ayayna ku xirteen cimaamado si aan loo aqoonsan iyagoo u tagay xoolo dhaqato biyo ka dhaaminayay warta cismaan oo qiyaastii 18 kiiloomitir u jirta degmada Walaweyn balse mid ka mid ah dadkii ay u tageen ayaa aqoonsaday markii la ogaaday inay dhagar damacsan yihiin uuna fashilmay qorshahoodii afduubka ayay ku fureen dadkii warta ku sugnaa xabado sababay dhimashada 12 qof iyo dhaawaca 7 kale suuley sawirkan waa sawirka hadda soo bandhigay sawirkan hadda soo bandhigay wuxuu hor taagay hadda taliyaha daraawishta sawirka halkaas sawir laga hayaa asagna suuley asaga iyo nimanka la yiraahdo Cabdulaahi Madyarow iyo Ismaaciil Mad Abuukar iyo Sayid Cali iyo Cali Maadey waaran maxkamadeeda u jaran fal dambiyeedkii ka dhacay Walaweyn ee lagu laayay 12 qof ee ku dhimatay 7 qofna ee ku dhaawacantay ninkana geystay suuley geystay mudul gudoomiye adigoo taliya ah oo xil haayo oo amniga magaalada qaabilsan ninkaas maleeshiyada ah oo duurkaas ku jiro hadaa ka cabsid ka roodhaad suuley dil geesta ka cabsid oo kala warwareegtay suuleygan mujrimka ah ee duurka ku jiro ee dadka laaynayo ee foolxumada geesta fiir 12 qof oo dad shacab ah oo hal qori aan wadanin oo meesha la yiraahdo war biyo ah siinaayo xoolahooda ayuu isku soo aadiyay kaaliyo yiri shabaab oo iska dhigay marka horena shabaab oo ahaa suuley mudul gudoomiye suuley maxkamadda hadda horteeda waxa laga sheegay in al-shabaab uu ka imaaday al-shabaab oo ka imaaday waa is soo dhiibo yiri beedhaba la geeyay wuxuu soo maray dhagan cilin asbaabta uu isku soo dhiibay maxay ahayd in la fahmaan raba argagixisada waxay adeegsanayaan taatikooyin badan ay adeegsadaan nin argagixisa ah oo halis ah waxa la isdhib ayaga soo dhahay isdhib markuu isdhiibo waxa ay damacsan yihiin ka badan ninkan waa is soo dhiibay waa soo baxay Walaweyn la imaaday 12 qof la laayay maxaa laga leeyahay markuu jeedka laga leeyahay maxay tahay Walaweyn amniye noqotay nabad iyo barwaaqo noqotay intaas dhibayso in dadkii isku dhuftaal raba qabiiladii in la fahmaan raba saraakiil la yahay darajo la iska wataa ma la fahmay waa yimid ninkan 12 qof oo dilay waa la difaacu yaaba ilaahay kugu dhaarshay mudul gudoomiye fiir 12 qof oo dilay ma naqaana waxa dilay alule wallahi billahi talla wal ogyahay inuu dilay asaga waa baxsaday waa la raadiyay fiir waa baxsaday uu ka dhuntay inta meel walba uu taliyaha saldhiga uu ku weeraray oo loogu sheegay uu ku weeraray dad kale oo ka soo qabta oo ninka waa ka baxsadaa way uu baxsan way ninka waa la shaqeyn way waa loo sheegaya ka baxsan le meesha mudana gudoomiye suuley al-shabaab waaye waxa meeshaan ka dhacay ee dagaalada dambe ee dhacay ee foolxumada dambe ee jarjaridda gubinta asaa mas'uuliyadeeda leh mudana gudoomiye in la fahmaa fiican 12 qof markuu asaga dilay 7 kalena uu dhaawacay wixii ka dambeeyay musalsal noqotay inta wax sameynay yaa sababteeda leh ninki sababteeda leh hadii qabiil ahaan lagu difaacay ka hor mudana gudoomiye dad mas'uuliyiin ah difaacayaan hadana mudana gudoomiye ninkaas waarana u jaran mudana gudoomiye asaga iyo maleeshiyaadkaas uu hogaaminayay waaran maxkamadeeda u jaran laamaha amniga meesha ku arkaan way ku toogan karaan isdhiiba la leeyahay haduu isdhiiba waa la toogan karaa dhigiis xalaal waay waa kaasa mudane gudoomiye maxkamadan hadda waxa ka codsan doona inay xukunkiisa xataa soo saarto waaran kaliya aan loogu ekeeninba ninkaas waa suuley iyo maleeshiyaadka uu hogaaminayo ninkan afshira laha
suulay markii dadkii uu isku diray dadkii meeshaan wada deganaa markii uu isku diray wuu dhuntay xilka ninkaana u sii dhiibtay ninkaana hadda xilka ku sima ka abshir meesha ninka lagu gubaayo asagaa amray muuqaala soo bandhiga wariya taliyaha aan ka amar sugnaa leh taliyaha aan ka war sugno ninkaan wixii lagu sameyn lahaa taliyaha aan ka war sugno ayuu leh yaa waa taliyaha abshir waa ninkaan markaa suulay ma joogaa meesha ma joogo suulay ma joogo markaan wixii ka dambeeyey suulay 12 nin markuu dilay oo 7dana dhaawacay mishinkiisa uu fuliyey laba dhinac inuu isku diro rabuun isku diray dadaaba u heelinaya weli oo dhahayaan annaga wax geesta ma naqaano sababtoo suulay habka uu isticmaalay taatikada uu isticmaalay maxaa waaye gafuur duub oo awalba ka yimid gafuur duubtii iska dhigay gafuur duubkii oo ka tirsan yahay ilaa nimankii uu laaynaayay kulligood ma wada laaynin dadaa nool dadaa dhaawacmay dadkii sheegay oo dhahay ninkaas waa ninkan dilay waa aragnay wajigiisa markaasaa la qarinaya mudane guddoomiye markaasaa la difaacaya mudane guddoomiye hadda falkaan waxa geystay oo gubidda ah ninkaana ka mas'uula abshir intaana waa dadka u shaqeynaya maleeshiyaadka u shaqeynaysa waa nin waa gubay nin waa jarjaray nin waa tooreeyey nin waa duubay nin waa jiiday mid ka mid ah ehelada dadkii lagu xasuuqay warta Cismaan ayaa fadhigan ku sharaxay sida ay wax u dhaceen xilligaasi waxa dhibana ka ahay nuur cabdi cali maxaa isku tihiin ilmaha adeerana yaa dilay ninkan waxaa dilay beesha reer Hubeer war halkaas ku taala lagu dilay dhowr ruux dad horta lagu laayo ku jiray xoolo dhaqatay iyaga xoolo shubanay la dilay iyaga xoolo shubanay xoolo soo aroorsaday warta iska cabaaya maalin tahay inta looga yimid amaamul la iskaga dhigay indhaha loo duubtay lagu dilay masay ahaayeen dhowr ruux ahaayeen dadka oo warta xoolo shubanaya dadka dilay oo magacyadooda ay haysid qaabka meesha ay ku imaadeen adi sida wax u dhaceen maxkamadda u sharax bar hal mar waxa lagu yiri dadka iyagoo warta cabaaya inta loo yimid la dhahay qoladii boonooyinka aruurinayna aan nahay boonada idinka fiirinayna halka isugu imaada qolade al-shabaab halka la isugu keenay markii ragga la aruurinaya qaarna ay timid oo diyaar garowday amarka qaadatay qaarkii kala dhimantooda soo socoto aan ragga kamid ah waxa fahmay ragga aruurinaya rag kamid ah fahmay in ahayn qoladii as ahayn gafuurka u duubnaa soo fahmay gafuurka u duubnay waa marada ka dhacday imaamada ka dhacday nin shacab oo fahmay markaas uu yiri ragga qaarna ay xagga la geeyay ay fariisteen oo howlgalkii lagu fulin rabo oo la taageen kuwii kale la soo xareynaayo wuxuu yiri ragga waa shacab waa carara ninkan waa orday ninkii xambad la raacay kuwii la soo aruuriya meesha lagu laay wixii kale xoolaha shubnay sidii ku fakadeen nimankaas yaa hogaaminay akumaas nimankaas waxa hogaaminay nin la yiraahdo suulay ma qof ay ka koobnaayeen annaga hadda saas musii xod galno wixii duurka ku soo heray wixii goobta taagnaa ma sheegin dadku waxay sheegeen meesha oo markaas iyaga la qabtay ninkii ka fakaday ilaahay ka badbaadiyay in dadka badnaayeen laakiin afar ruux oo shacab ay ku jireen inta kalena suulay hogaaminay iyo dadkan wax ka dhaxay ma jiro wax gaar ah ma dhaxayn wax ay ka qaateen ma jiro markii ay dileen xoolo ma ka dhaceen xoolana maya qabqabla dagaal iyo horjooga maleeshiyeed cali isaaq guuleed cali yariis ku-xigeenkiisa duqa oo ay la socdeen maxamed cismaan nuunow ciise cabdi maxamuud calaan xuseen maxamed qaasim maxamed ganey xaraash daamey xasan goobe isaaq xundow iyo shigshigow dhammaantoodna ah maqanayaal la amray in lagu keeno nolol iyo geeri ayaa loo haystaa weerar 10kii bishii 11aad ee sanadkan ay ku qaadeen ceelbiyood ku yaalla yaaqbari weyne oo ay ka dhalatay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca 5 kale waxayna gubeen matooradii ceelka cali yariis iyo waxay kala sameeyeen yaaqbari weyne waxa ku yaalo ceelbiyooda ku yaalo hal ceelbiyooda ku yaalo halkii ceelbiyood ee ku yaalay ayaa weerareen waana gubeen fiiri sabanay ku qabteen mudane guddoomiye nimanka yaaqbari weyne joogo oo uu hogaaminayo cali yariis macnaha dudumay kaliya dhibaato kuma hayo yaaqbari weyne laftirkeeda dhibaato ku haya maalin alla keeno baawureeyo meesha ku dilaa waa kana ceelbiyoodkii ay isticmaalaysa yaaqbari weyne oo dhan ayuu gubay 5 ruux oo meesha isku dilay 5 kalena waa dhaawacay markaasaa ninkan la sawiran hadda oo duqa u leeyahay baraha bulshada inuu soo istaago oo wuxuu leeyahay kansarkii nagu dhex jiray waa soo afjarnay u fiirsa mudane guddoomiye kansarkii nagu dhex jiray waa soo afjarnoo leeyahay wuxuu ku faraxsan yahay 5 qof oo meesha uu ku soo laayay 5 uu soo dhaawacay
iyo ceelka uu gubay ku faraxsan yahay kansarka waa soo laayo leeyahay mudane gudoomiye mar alla markii xafiiska xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida uu yimid degmadani walaweyn oo aan rabna inaan baarno falkii foosha xumaa ee ka dhacay Dudumay ee ninka lagu gubay ayaa waxaa dhacday in Cali Yariis iyo maleeshiyad uu hogaaminayo ee weerareen ceelkii Yaqbari weyne mar alla markaa maqalnay Cali Yariis waxaa ognahay inuu sarkaal ciidan xukumo uu ahaa ognahay waa la wacay xabadda joojaaliyay ma joojinin hal qof meesha uu ku dilay war xabadda jooji amar lagu siiyay ma joojinin ilaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka commandoska ee danab meeshan ay ka baxaan ee ku baxeen tuulada Yaqbari weyne 4 nin ay meesha ku dileen oo ceelka waardiyaha ka ahay ee meesha ku dileen 5 kalena waa dhaawaceen 5taas dhaawac ah ayagoo dhameystir rabo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka gaaray oo meesha ay ka soo badbaadiyeen yaa sameynaa sidaas Cali Yariis sameynaa mas'uuliyadda Cali Yariis qaadanay mudane gudoomiye sababtoo waa la hadlay jooji xabadda Cali Yariis muuse joojinin dadka baa inuu laayo rabi ayagoo ku faanayna waa kana meesha hadda soo bandhigaya mudane gudoomiye muuqaal qiraal uu ku yahay oo uu leeyahay kansarki waa soo afjarnay kansar yaa aniga duqo waay qiraal waay qaabka uu hadda u sharaxanayo baraha bulshada uga sharaxanayo macnaha dadka uu laayay oo qiil u sameysanayo mudane gudoomiye ninkani waa maleeshiyo waarankiisa waa jiray mudane gudoomiye afkiisa hadda ka qirtay wuxuu leeyahay kansar aan ugu dhex jiray macnaha Yaqbari weyn hadda hal kansar aan ugu dhex jiray kansarkii waa soo afjarnay leeyahay mudane gudoomiye waa qiraal waarankiisa waa jiran yahay laamaha amniga meesha ku arkaan ku soo qaban karaan ku toogan karaan mudane gudoomiye yaa xukumo Cali Yariis xukumo mudane gudoomiye kan duqo walaha qaar ka mid ah dadkii lagu beegsaday ceelbiyoodka ayaa ka waramay dhibka gaaray iyo sababta keentay weerarka nin shacab ahay ceelka adeerkayga iska lahay waxaad ogtahay adeerkay meesha in lagu dilaad ogtahay ciise farcadde waqtiga hadda taariikhdan ma xasuusto laakiin waqti dhexe ayaa waxaa dilay nimankan macawisleyda u dilay aana qabiilo dhahaan micnaha halaca qorey naga qaatay habar giirta inta joogtaan ka qaadanaynaa waa gaaljacad waxaa hogaamiyay Cali Yariis iyo jarbow nin la khaasatan dadka dilay waxaa kamid ah ciise calaan iyo rag wad waxaad ogtahay raggii dilay ciise farcadde ayadoon laga hadlin ayaa rag kamid ah oo isla ayakii dilaya mooto ciidankii ceelka joogay ay u adeegaysay ayaa waxaa qabsaday haddana isla macawisleydi waxay ku raacdaysteen baabuur waxay u raacdaysteen dhanka leego maalin maalmaha kamid ah 8 bish hadda aan soo dhaafnay ayaa waxaa dhacday nin la yiraahdo Jaablo Faarax oo cagowina adeerkiisa ayaa ceelka lagu xabadiyay macawisley oo ku xabadays ani yar kale oo gaaljaclaan nimankii soo kala dhex galnay war kala joogaan ninkii gaaljaclaan waxa xiri nimankan wad kuwana ka celinaa ujeedka markaas waxa badiyeen anigu wadda ma dareemi karo oo goonida ay u soo qasqasan ma dareemi karo laakiin ninkan waxa badda lagu wadan kulli ninkan waxa ku cabadeeyo wuxuu ku jawaabay kii ninka cabadeeyahay afartiinan habar gidir haddana dilina meedkiisana waxaad ka bedeli kartaa wax kala madayaysa ma yaawin ordo ceelku waa qoryo soo qaad nimankii intan anagu hor taagnin oo kala celinaynay mid kale ayaa baawur ka soo degay oo isla macawisleyda oo la yiraahdo Cabdi Jabbaar maxaa laga tago yuhuudu dhashadan bay kala soo xabadana ku bilaab kii ordo ustaabta ceelku galasna qoryo soo qaad adigu ma marka saacan baa xaafidida ka mid leeyahay ku jira ay keenan kala celiyo la kala hadlaan buu nimid xabadii waday isweydaarsadeen dhexdooda ka baxna oo geesan u ordo halkaas iyadoo joogto ayaa ceelka la isugu tagay raggii ceelka waxay nimankan hadii maadaama nin ka dhaawacmay maqnaamo doonaan dadkii ceelka meesha joogay meesha isugu nimid meesha markaan isugu nimid difaaca la qabto wardiyaan iska qabanay oo nabad qofna coladuma sidinay nimankan hadda dib loo geystay haddana wuu dadka dandarrada ku hayay ma maqnaa doonaan si aan ninkan ku weelinaan ugu nimid intaas markay jirto habeenada kamida waxay yarkan dhimo doono la yiraahdo ilka case 8 saac bar oo barkada ceelka soo galay barkada ceelka markuu soo galay toosha lagu qabtay oo kuma la yiri waa ilka case wuri waxa la hadlaa yar kale oo meesha jooga Faarax Bagad liira ilka case waa wuri inuu yiri markii safudada meesha ku jiray anigu waa soo istaagay ana u istaagay waa u tagay ilka case dhibaatada meeshan ka jirto waad ogtahay dadkii geystaadna tihiin maxaad ka soo doontaa meesha inay raggan difaac isugu jirto waad ogtahay
meesha maxaad ka soo doontay waa 8 saac oo habeenimo iyo bar meelahaas ku yaasnay waxaa ma wicilkaas waa iska tegay nin waxaan dhahnay meesha dhibaato u geysateen waa ogtahay intaas soo jiitay ma ogtahay walaalo haddaad dhib kala wadan la nabadgeli wuu naga tegay habeenkii raggii aniga la joogay waardiyaan la qabtay waa la joogay 9 saac ah habeenimo aan ka saaxday hal saac waxaan soo kaxa badaan ku kaxa xabadii markaan ku kacan soo baxon aalka iridiisa baan ka soo baxaba ninkan ayaa ilkaasa ninkii xalay 8 saac nabadgeli aan lahayaa meeshii yaal barnaamijku meeshaasoo ka soo bilowday ninkaan hadda ninkaan hadda diliyo sax aan qof ima dhihin ninka dhiman doono Cabduqaadira oo baasto iyo ninkaan xabadaas dhaafsadaa leeyahay ninkaan weerar ah sida la ii sheegay markaas xaqiijinteeda indhahaygu ma hayn oo nadartu ma dhihin laakiin dadka xogdooda ka helaa inuu baas dila la ii sheegay waa dhin isla ay kala dilay kadib waxaan dhacday annagoo bartiyaan iska joognay ceelkaan iska joognay difaaciyaan iska joognay nus saac ka bacdiba weerar aan ku soo qaado waxaan ugu soo qaad macuusliin dad badanaa ka buuxa ciise calaankaa ku jira duflo nin liraa ku jira waxaa ku jira nin liraa cabdiraxmaan ceel jooge nin liraa shigshigow dadkan indhayga cabdiraxmaanka iyo ciisaha iyo duflaha waxaa indhayga waa qabteen dadka shacabka ayaana kuga caddaynaaba caliiriis inuu ku jiro dadka dadweynaha ii sheegay aniga indhayga ma qolaay dadka ii sheegay inuu celihayay midda kale uu soo wacayay ciidankii meeshaan wata rag ka mid uu soo wacayay oo wax dhiba ma jiraan jooga lahay barnaamijkuna loo waa caddaaba taas isweydiin u baahan ciidankaad noo soo dirtay rag ka mid uu wacayay caliiriis dad shacabaha ku jira naftirkooda oo meesha ku jira waxaa la yidhaha isaaq xundu nin lidhaha ka mida waxaa ka mida nin lidhaha eelay oo lama la yidhaha xuseen juumow laakiin eelay loo yaqaan ninkii la yidhaha ibraahim xaraash ninka sabanka iyo ifanta tuurooga uu ahaaba midkaan bari weyne wuxuu ku bilowday niman ganacsataa oo ceel bari weyne ku yaalla jooga magaalada bari weyne ceel ku yaalla oo ganacsataa ceelkaas gata ayaa joogay waxay haysteen wax yaroo aan badnayn qoryaha isku waardiyeeyaan may fahanteen oo hantidooda ay ku ilaashayaan waxa dhacday habeenkii waxay yiraahdeen waxa noo yimid nin socda waan ka shakinay orod naga tagaan hal may fahanteen adiga waa uu naga tagay subaxii markii waagu bariyay dagaalka lagu soo bilaaway nimankii xalay celiyay ninkii meeshaan marayo yiri xad noo soo doontay ceelka aan rabnaa may fahanteen sidaasoo dagaalku ku bilowday beel iswadata oo macawisley iyo ganacsato iyo qabiil leh ayaa dadkaas barakiciyey oo ku soo duulay wayna laayeen 4 nin way dhimatay 4 nin way dhimatay ceelka gudihiisa ay ku dhimatay 5 qofoodna waa la dhaawacay oo qaarna ceelka gudihiisa lagu dhaawacay qaarna guryahoodii looga daba tegay intaasu markay dhacday ciidan waxa meeshaan ka baxay dawladdu leedahay waa ay tageen waxay soo qaadeen meydkii iyo dadkii dhaawac ahay iyo dadkii meesha joogay oo barakaco baabuurta dhan soo raacay waxaan ugu hortagnay meel meeshaan oo magaalo harada afkeeda dadkii barakicii walweynaa lagu daadiyey meydkii waa la duugay dhaawiciina xamara loo qaaday intaas ayay dhacdadaas u ahayd dawladda iyo cadaaladana waxaan ka rabnaa dadkaas dadka laayay in gacan dawlo la soo gelsho dadkaas waxay hayeen qabiil la yiraahdo gaal jecel waxa bilaabay dagaalka nimankii guur fadhigooda loogu tagay nimankii ceelka jooga fadhigooda loogu tagay waxa uu tagay niman macuusley la yiraahdo macuusleyda gaal jecel waay waxay degan yihiin meesha la dhaho Armoole oo ku dhagan magaalada afkooda ay degan yihiin sidoo kale isla kooxdan Cali Yariis iyo Duqow ay hormuud ku yihiin laguna raad joogo ayaa loo haystaa dil foolxun oo aan qabiil salka ku hayay noloshana lagu dhaafiyay marxuum Cismaan Xasan Maxamed Owliyo kaasi oo baadiyaha Yaqbari weyne ka raadinaya xoolo kalumay caloosha ayay banaanka keeneen kadibna waxay ku gureen dhagaxaan iyo caro iyagoo ka jaray gacanta bidix
isla markaana suray aargada yaaq bari weyne falkan ayaana dhacay 22kii bishii tobnaad ee sanadkan nin la yiraahdo Cusmaan Ooliyo oo xoolo dhaqata ah ayaa waxa ka lumay xoolo ayaa ka lumay xoolihiisa 6 neef oo ahayd 6diisa neef asoo raadsanayo ayaa waxa lagu qabtay yaaq bari weyne maleeshiya joog waa la qabtay waa la jirdilay waa la jiiday waa la xirxiray caloosha laga soo bixiyay gacanta laga gooyay meeshaan hadda sawirkan arkoono yaaq bari weyn oo dhan la soo baxay Cusmaan Ooliyo markaas lagu korfeesteena waa lagu dhaanteena midul gudoomiye sidee yaaq bari weyn oo dhan reer yaaq bari weyn oo dhan isugu raaci karaan dulmiga intaas la eegsan isugu raaci karaan midul gudoomiye yaa sameeyay ficilkaas nimankaana hogaaminay nimankan midul gudoomiye nimankaana hogaaminay Ali Yariisa hogaaminay ninkaas Cusmaan Ooliyo wax uu galabsaday malaha qori ma wadanin waxa la yaab leh gudoomiye qorigaana dusha laga saara fiir qorigaan ninka jaalaha gacanta uu ku wado Cusmaan Ooliyo watay alliiraba ma wadan qori waligiisna ma qaadan si dhiigiisa loo xalaashado qori la dul saaray qorigaana uu wata amal hadhow maxal sameey marka mid qaana mudane gudoomiye calooshi ee ka soo daadiyeen gacanta waa jareen oo bidix kow waa jareen lugihii say ugu dhufanayeen misaar ayagoo jarmi waayey xal dhameedka hal soo dhiibo ninka waa dishay dhameedka soo dhiiba calooshi si aan loo dareemin dhagxaanay ka soo buuxiyeen falka fuxushmada fiir mudane gudoomiye dhagxaan calooshi laga soo buuxiyey waa la isku laabay waa la soo duuduubay calooshi soo dhameystiranta amal laakiin aaway calooshi yaaq bari weyn ku soo daadsadeen gacanta waa maqan tahay way goosteen waa la maqan tahay yaaq bari weyn ku maqan tahay lugihii ayagoo ka laalaadaan meesha la keenay falkaas fuxuuxa fiir mudane gudoomiye yaa ka dambeeyo ninkan Ali Yariisa ka dambeeyo qoriga uu dul saaraayo ayaga iskale qorigaas mudane gudoomiye maleeshiyaadka yaaq bari weyn dhibaato dadku ku hayaan maleeshiyaadka joogo dudumayna dhibaato dadku ku hayaan mudane gudoomiye waxa is heesto oo dhibaatada dadku ku hayo shacabka maaha waa maleeshiyaadka mudane gudoomiye dadku hubaysan waa mudane gudoomiye dadkan dad walaalo ah oo weligood wada deganaa waa meeshan waxa mar walba colaadaha horinaayo oo dadka isku diraayo maleeshiyaadkan hubaysan waa mudane gudoomiye ayaga dhibaato ku ah haddii aan laga dul qaadin dadku isku baaba'ayaan haddana waxa kaaga daran fool xumada ay sameynayaan qof ayaa xubin loo jaraya xabad kaliya looguma ekeenayo xubin loo jara fool xumada dhinacaan laga sameynaa dhinacaan fool xumada laga sameynaa Soomaaliya dhan wada saameynay marka mudane gudoomiye maamul goboleedka koonfur galbeed ee saameynay dawladda Soomaaliya hadda wada saameynaysa in la iska qabto mudane gudoomiye abanaan nimankaana waarana u jarnay ninkan waxa la yiraahdaa Ali Yariisa ninkan waxa la yiraahdaa Ciise Canaan fakad waaye lama amnigu waa ku raad joogan waarankoodan jaran mudane gudoomiye meesha lagu arkaa lagu toogana waa is soo dhiibi waayeen waa la wargeliyay waa la wacay soo xaraado waa diideen sababtoo in falal ay geysteen ninkan duqow kamid ah inta waay meeshan gubniinka uu ka muuqdo waxa waay tuulada dudumay soo weerareen yaa soo weeraray Ali Yariis iyo duqow soo weerareen nimankan sawiradu u jeedin soo weeraray meeshan tuuladaas waxa gubay labada nin waay ciidan hogaaminayaan waarankooda jaran meesha lagu arkaan lagu toogana mid ka mid ah ehelada marxuum Ooliyo ayaa halkan lagu dhageystay waxa lagu dhahay yaa laga dilay maanta ka socotaa Usmaan Xasan Usmaan Ooliyo maxaa isku tiin adeer shay adeer u tahay yaa dilay Usmaan Ooliyo gaajada dilay tay ku dilay bari weyn yaa lagu dilay baadi goobahay muxuu raadinay geela ku goosay geela ku maqanay Usmaan Ooliyo xoolo dhaqato ahaa miya xoolo dhaqato hay haye goorma la dilay waxaa la banaanka laga soo qabtay haye bari weyn yaa la keen haye bari weyn yaa lagu dilay haye ataneelka uu ku meesha waxa ka maqan ataneelka ku maqan internetka ka aragtay yaa ka aragtay hay maxaa aragtay oo meesha la tuurino oo usugu qoryaalka kor laga saar haye qori muuta asaga may weligiisa qori ma qaadan shacab iska ahay qoriga la dul saar muxuu ahaa dadkii direena dooshi ka saaray meedkiisa goorma hesheen meedka awalay waa la soo qaaday meel isbaarada aadakeen
واقرتي إسبارة ذلك سوق هذا واقرتي مريرتا لقي هاي ألاش إبر ما ديريك بناك يا واقرتي قربكم مره هل قاعد قانته هل قاعد مره هاي لقاه بدو لقاه دسي لقاه بدو لقاه دسي واقر مقارك اللي يخيبه هاي بوجي وهكذا كتير مد لقاه لقاه هاي ألاش مقيل دقايق دقاه لقى سو بدحي دقاه ألاش من دعري أو ما ديرينك والو غير والو إلي واقرتي أسانا لوهير واقرتي سانا لوهير دقح اللي بوحي علوشي دقاه لقى بوحي قعنتي أو وادي كوي واقرتي لوهيني لقى واجي جبسني هم أوجي مقار كود واحد اسكو هاي مقار كوا هاي سلام أسوق على أنا أنا دوق أنا دوق قال واك مقني قالي شم نف كلنا ومقني شم نف له نف هاي ويا اسكله اسمع أودي له نف كم قنيت له مدان وابل ونوابل أرك شنت كلوا ومقني واقرتي ماشي لقوا ما أوجي هاي مقنا هاي لقنا هاي واحد لو ما هاي اوكي dadkii dilay isbaan oo liyo meedin imaadeen oo wada hadal may meedin la hadlay asheega horta xoolihii ma iska soo celiyeen maya waa ku maqan tahay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warbixin ka dhageystay gaadiidleyda ka shaqeysa gobolka Shabeellaha Hoose oo ka cabanayay dhac iyo gabood falo ay kala kulmaan maleeshiyad hubaysan maanta annagoo gaadiidleyda Soomaaliyeed ah aan hortaaganahay maxkamadda qaranka Soomaaliyeed waxaan maanta mar waxaan nahay cabasho marna waxaan nahay codsi waxaan hormarinayaa cabasho gaadiidkii waxaa lagu dhibaa niman Soomaaliyeed oo degan meesha la yiraahdo Kabahereg iyo u dhaxaysa muxuu ahay Leego Kabahereg waa inta meeshan ay ku taala Belidogle xeradeeda wax yar markii la dhaafo jidka oo maaragtay aada Kabahereg xagga la yiraahdo laakiin tan waxa la yiraahdaa jeerada Kabahereg waxay hoos tagtaa yaqbir weyn amba wallan weyn isku xukunta nimankaasi gaadiidka lacag bay ka qaataan lacagta markii ay ka qaataan mar labaadii mootooyin ka daba qaataan nimanku waxa waaye niman isbaaroley ah oo isbaaro dhigtay oo isku sheegay inay yihiin macawsley shabaab la dagaalaya lana dagaali shabaab oo annaga nala dagaala isbaaradu waxay taallaa Armooley meel la yiraahdo oo biri weyne ka sokaysa meel biri weyne ka sokaysa iyo jeerada Kabahereg u dhaxaysa oo Armooley la yiraahdo ay taallaa isbaaradu meeshaasay lacagta uga qaadanayaan markay lacagta uga qaataan waxay ka daba qaadanayaan mootooyin lacag waliba aanan awoodin oo jidku ku xirmay oo dhibaato weyn ka dhacday oo gaadiidka Soomaaliyeed Muqdisho hadda uu ku maaragtay oo fadhiyo oo dhaqaaq waayay oo ku kaliftay inay maraan muxuu ahay halkaas iyo bacaad iyo shabaab dhexdeeda ayadana way ka daba tageen asii daraweynta ka soo afduubteen markii aan marka midaan sii wado markuu gaadiidka lacagta ay ka qaataan ay hubsadaan baawurkaasi lacagta inuu bixiyay mar labaad ay mootooyin ka daba qaataan markay ka daba qaataan darawalka la degaa markii la dega duurka la gelinaa toorey ayaa lagu mudaa aan leeyahay $1,000 hadda dalab ninkii baawurka lahayo ku qaylinaa ninka baawurka iskale waxaa laga yaabaa inuusan lacagtaas haysanin hooyadiisii aabihiisa waca xaqiiqo waaye taas ana kitaab ilaahay ku mari kara nin hadda ka hor la afduubtay 9 nin oo la afduubtay nin kamida hooyadiis ayaa waxay noogu timid Bakaaraha annagoo baawuray ah waxay tiri wiilkayga waa la afduubtay ninkii baawurka iska lahayna waa uu ka bixi waayay walaalayaal halay qaaraan meeshaas ayaan ku qaaraanay nimankaas marka walaalahayn ah dacwada aan u qabno waxaan rabnaa dawladda Soomaaliya in walaalahayn nimankaas in nagala qabto gaadiidka su'aashii aad weydiiso waa xiran yahay anaana ku cadeynaya Muqdisho ku xiran yahay
mid dhifa oo tuulooyinkaana dhow u socda ayaa yimaada baabuurtii bay dhab u socotay amba u socotay muxuu ahaay meesha la yiraahdo beled xaawo badeecadeedii hadda waxaa laga keenaa berbero iyo boosaaso way xirantay waddadaas way xirantay waxayna u xirantay darawalkii baa diiday oo yidhi aniga baabuurka meesha ma marsiin karo badeecadiina way xamri ku xayiran tahay baabuurtana garashadii ku jiraan sidaasayna bakhaarada u buuxaan waxaan codsanaynaa weliba maxkamadda in ay si u baarto ganacsatadayna iyo gaadiidlayna way soco weynay badeecadayna wallaahi uma wallaahi berberi ka timaadaa ase waxay ka gashaa meeshaas beled xaawo kenya etoobiya ay ka gashaa waana badeecadii annagu aan ka qaadi jirnay muqdisho waxaa awoodi waaye darawalkii baabuurka wadi lahaa ayaa nin walbaba xataa markii la yidhi magafaha waa lagaa bixina ayuu yidhi aniga nafteyda yaa bixinaya yaa damaanad qaadaya braaw waxaa keenay xildhibaan annagoo guddiyoo dacwo ah ayaan meeshaan ugu nimid isbishal anaa la fadhiistay xildhibaanka cabdikariin cabdulla bariisaaleyna gambaa ku magac dheeree codkayga inuu maanta maqle aadan u jeclaalahay bartaana la fadhiisannay xildhibaanku wuxuu yidhi lacagta iska bixiya lidin dili mayey waayahaye aan ammaan helno lacagta waa iska bixinaynaa waxaan u soo dacwoonnay guutada meeshaan joogta ayaan u soo dacwoonnay waxay yidhaahdeen annaga taliyaha xoogga dalka soomaaliyeedna xukuma waanu u gudbinay arrintan nin xasaanad lana annagu uma dhaqaaqi karno ilaa amarna la soo siiyo baldoogil xeradaanan kula kulanno waa 3 mar cabashadayna markaan u gudbinay lacagta iska bixiyo ammaankiina waa la sugahay lamana sugino asigoo jooga oo goobjoog ah ayaa 9 darawal nagala afdubtay goobjoog u ahaa walweynaan jifnay waa soo baxnay waxaan ugu nimid intaan ugu nimid waa wada fariisannay waxaan nimanka masaakiinta oo la afduubtay xildhibaane waxaan kaa codsanaynaa dadka noola soo daayo $1,000 lacag aan nagala qaaday baabuurtii sidaasay ku nabad gashay calaa darawal 9 nin ay ahaayeen 9kii $9,000 aan bixinay waxaa amray ninka darawalka tooreyda gelgelinaya ayaa eheladiisa soo wacaa amba batroodigiisa baabuurka iska laga soo wacaa asuu leeyahay dhaqaalaasaa laygu haysaa waana laydilaa saacad ka bacdi haddii aan maaragtay lacagtaas laga bixin sidaasaa lacagta looga bixiya waxa aan dacwada aan ka qabno nimanka isbaariistayaasha ah oo meeshaas degan oo na afduubta gaadiidkayna u xayirmay shaqadayna ay u baaba'day badeecadii dekadda soomaaliyeed ka soo degaysa ay mari la'dahay ee maanta berbere iyo boosaaso maaragtay badeecadeedii la isticmaalo sidaasaa gaadiidkayna ku shaqo beelay sidaas aan ku ceertaawnay guddoomiyaha gaadiidka soomaaliyeedan ah cabdikariin cabdulla bariisaa la yidhaha gambaan ku magac dheera dacwada ka bacdi codsiban aan ku darsanaynaa waxaan dowladda soomaaliya ka codsanaynaa maxkamadda qaranka soomaaliyeed aan ka codsanaynaa nimankaa walaalaheen in nagala wareejiyo naftayni hadda bishii 11aad lagu jiraa bisha 10aad dhammaadkeeda 2 nagala dilay midna waa nagala dhaawacay nimanka macawsleydaha dilay macawsleyda sheeganaya ayaa dilay waa 2 darawal iyo darawal la dhaawacay 3daas way waana weliba baabuurka ninkaana iska lahaa ninkaasa iska lahaa baabuurka darawalkiisa lagu dilay lacagtii markuu bixiyey oo lacagtii siiyey ayaa mar labaad inta laga daba tegay aan lacag kale laga qaatay darawalkii 5 cabood lagu dhuftay waa waxa noo dhiman anoo ku hadlaya magacayga oo ah aadan abdiqaadir aamin ana ah gudoomiye ku-xigeenka gaadiidka Soomaaliyeed maxkamadda sharafta leh horta waxaan ka codsanaynaa in ay warkaan horta ay naga ajiibto naga diiwaan geliso isbaarada waa wax uu bilaabay ninka odayga oo xildhibaanka cid kale ma bilaabay annagoo
waddadan ilaa iyo bir weynaa baabuurta dhib ku qabi jirtay naga godgodoomi jirtay madaxda markaas waddanka haysatay sida xala iyo hamagaashaan intaan weydiisananimiyo meeshaan aan iska daduugayna iska daduuganiliyo nabad aan wax ku daduugna aan ka soo noqonay maalintii dambu intuu meelahan soo maray inta ciidan soo dhigay waa u nimana waxaan xildhibaan meesha xarada laga soo galayo ciidamada military xaradoodan kula kulunay mar labaadna intaan kula kulunay waxaan dhahay xildhibaan adoo sanadii dawladda haysta ma haddana niman isbaaro dhiganayo aad inta noo keentay anugu isbaaro shaqo ku meeli laakiin shabaabaan la dagaalayaa shabaabkii baabuurta muu noqdeen baabuurta la leenayo daraweynta la dilaayay shabaab ilaa duurku ku jiray ma raatid ilaahay khayr ha ku soo waxaan dhahay raato asigi waxa ay mas'uulayo nin leeyahay waraabagaad asaab taliye ka ururka uu keenay waraabagaad la yiraahdaa waagaas had waxa u maleyn taqriiban 2 sano waa ka badan tahay intaas baabuur la gubay nin la dilay qof la afduubtay aniga nafteeda kula hadlay gaari aan leeyahay intii 2 saaxiibnimo darawalka la iga watay gaarigan meel cidla uu fadhiyo uu raray hanta dad ay saaran tahay ayaa waa berigi 9 saaxiibnimo la soo wacay darawalkii ay soo wacay wuxuu aadano waa la dilow haya xalay wala watay saacada aan jooga adduunyo aakhir meel aan joogno ma ogi uu yiri igu dhiibaan dhahay ninka ku haysto ninkii baa la igu dhiibay 3,000 aan ka rabaa aan ka rabaa gaariga rarasa sokor iyo bur iyo bariis iyo caano iyo bagaasha saaran kun rumoor way warareen bay u socda markan mar 9 saaxiibnimo ilaa 1 saac subaxnimo aan gorgortamay ninkii markii dambe waxaan dhaafin waay 1,600 aan siiyay maadaama uu darawalkii dilow hay 1,600 aan siiyay gaariga markuu safro meesha tago uu soo noqdo 1,600 iska rafay 500 lagama helo 500 hadii laga lugtiisa hore waa hasa ahaatee annaga awalba wuxuu isbaaradan dib ku qabnay haddana waxa waaye dekadiib waxay u wareegtay berberiya boosaaso alaabtii badeecadii iyo baabuurtii wax raray xaggay aadeen ganacsad Soomaaliya kamida waxa geysanay berbera baawur laga soo rara meel oo boolaha waqtigeeda lagu dejina waxa uu sababa markii inta wada laga waayay wadadii la waayay waa go'day darawalka hadii maalin walba la dilaya darawal isbaar inta laga keena waa la dilaa uu leeyahay gaarigan mu waday aniga mu wadi karno waa wadi jirnay laakiin hadda odayaal noqonay ma wadi karno hasa ahaatee waagaas ilaa abtunaaw hadda la joogo oo hadda meedka u dambeeyay waa labada nin oo hadda maalin dhaweed la dilay bishan tobnaad waagaas waxa ku wada markii macmuushtii meesha la keenay ilaa hadda markii ayaga la keenay ilaa hadda meed waxa u dambeeyay labada wiil oo hadda bishii tobnaad October lagu dilay inta labadaas u dambeeyay hadda wax la dilay laakiin ka hor dad la dilay oo la yiri ilaaha jooga la yiri oo la saga tagay jirta badan meeqa goorma wax dilow galeen hasaatee markan annaga horta dhibkaas aan haysta dhibkaasna waxaan ka codsanaynaa dawladda xabaday ku dhufanaan qofka soo ooynayo ku soo wacdo darawal oo liif mindi asi dambe meel walba shaqo laga leeyahay ama habeen madow intii dharka laga siiba banaan la fariisiyo bil lagu rushayna waana la garaaca waa dhacday bani aadan jirkiisa jilay awgeed habeen beel lagu shubay qabowna jiro la garaacay maxay yaal wuxuu ooyna waxaan bani aadan bisheegan karin uu ooyna nin markan horta dhibkan waa dhibkaas maxkamadda sharafla iyo dawladda annaga canshuur dawladeed hal xabo naguma baaqato gaariga laga dhiiba badeecada laga dhiiba wax oo hadda aan nagu baaqdo canshuur dawladeed aan bixinayn naguma arko hal shay naguma arko canshuur dawladeed tare masterale kala wato buuq wax dhan waa iska dhiibnaa waxaan dib ku qabi jirnay afgooy iyo daafeedan meel u dhaxay niman la baxay magafo ayaa joogi jiray laakiin waayahan buu laga nabad helay kuwii ayaga militarigana ilaahay baa ugu mahadinaynaa nimankan saraakiishan ahmagaashaan iyo ku jira militarigana shaqo ka qabtay nabada gaariga habeenu iska guurayna cid haysata ma meeshaas ma laga qaaday militariga ka raray waa kala raacday qaar bay soo qabteen markan warka anaga waa kaas dhibkana heesto waay wadadan ilaahay baan mahadinaynaa dawladana aan u mahadinaynaa wadadan dadkan hana laga qabto waa shacab iyo isku jiro ay shacab beere ninka haduu tuugu meel ku hoydo haduusan lahayn ma joogay wadankaas tuugii iyo dadkiisa way isla degan yihiin
meelba ma aadayn gaari inta ku dhaca jiirada isaga soo baxa bir weyn iska imaana meeshu raashinka cuna ama biyo uu ka gadana markan dawladda iyo maxkamadda waxaan ka codsanaynaa nimankan hana laga dhiciyo wadooyinka Soomaaliya way iska jiraan isbaaro way jirtaa dad la dilay wali ma arag laakiin dil intuu yaala waa leego iyo bir weyn inta u dhaxayso عذاب أبو الأمرين وهاي البني آدم بشر كإلهي وأنت والله عذابه هاي ما عذابه إلا أنين هبين مذو إن بيل ورو شيء هذا أنا الله جراعي هذا كلامه دوميها وضوين يلان تصعد كان جديد كسومالي وضداس سيد أضياء شجوا الريان بالشيئين ودوميال كجوا الري أنا جنب بدنا وضوين كمرني مالك استورد كتشرة وأكوب بحشرني وضوين كوي بديهن وضاء الدهيران إلا مدق الجدود وهكلا حتى ورمحن يتحسر السكوديسة هذا كهر ربا كشري سنة كلا باورت لوجو بارد شري باورت موتوين لوجو دبا عيرس شري وحنوسو دعواني تليها جوتة تليها سلقة نوسو دعواني ولوين جوجا مركز وحباي كقبتين ماشاس لبكي جديد كواكويا راضي موتوين كلا دبا قادنا إسباردي أفتوب كواكيا راضي وقال أنا ولوين نفت هذا بربلا نبضنا كشري وقفوا من الغرة لا استاجوا وباورتها كان مرقعات كان ولا يكان أيضا وكسر دعواني إلى باكم هالسنة شغف عنا على قبتي جديد كأمني وكمرة أنت سنة وهاي السنة وإلا يقبروا إن نبض مره وحي يمد إذا ما ذا وهجامني اللي معنا مركو يمد العجل الغب اللاوي والسؤال أدني تريها تريالك ولا سو هذا اللي وحيل هذه النماذج أنا وماشاس من حسنات هيستات شوجا ما أنا آدي كرنوا وأنا وهذا أمر الله مسنين أنا كبح أنا أدنو أفكرنك وهلا وأنا نمد اللي ما أنا ماشي أنا كل الناي وحنا الوضع عن معمول كان كتر شا تجمدي ولا وين وهست ما دا عيدا كان جوريج ما يدين كوريج هنا عيدا كان مع وسلية اللي يرى ضد عن وحنا كل الدرجة يا دولة ذاك له هل كاسي شوجيان العقنا ويقاضيا وهنا والعمل على نجاق متو عيدا كمان تجمدان هوستي ما دين ولا وين أمانة جوريج مايا مر لبعض تليال خصوصا الله وانا تليال كل هذا أنا أمر نواه السنة تليه حق عيدا كالصومالي أمر نمسين إن كان أول نحسان هيست عيدا كان أساوت تقول قوتي عبد بليال وتي عيدا تربى أنا وتشوق ماشي سجين الله كنا نضمت نوقع صبتي وحير أمني جنا ماشي أمني جنا أنا سويا عيدا كنا العقي قاضيان وعيدا بيلد ومعوسلي وحدود دول كاسي حرينيا وضمت عند الدافسي ويسي العقي قاضين وحناك كان صدق حنا نقولي هاي وقدومي يقدون كحيان كمعوسلي ده أمني جاي سوايا وحلا إذا كدعوا أيها على جربا العكتاسنا وقاضي العقي قاضي ما دابا أنت صد عضي العكتي على السيء ولا مري لا بس سفرت على مريمبا وهي باللابين هنا يبابور تدعان هنا العكلة وعقل كفوعة أي يراد هذا نوار ربنا اللي ما أنا أفكر كل هذا وعارف اللي ما نمك ترى أمني يسويا العكلة أنا ما قاعد كران خدمة ده سال السنة يا قاعد كان العقنا وكسور رجل وين الدعية أفكر سويه ويري وروا يجور ديدين أوكي هذا ماشي كان يحل معنا قاعد ما إذا ما كوفر قلبت كي وسير كأبنا ماشي قاعد كوا استاج وضوء حرنتي إذا ما كوفر قلبت كي يمد وسير كأبنا كوفر قلبت إذا عدا يمد هل كان وسجون إذا نجا نمد باورتي تليها دنا وهل كان شوقي يو وسير كوفر قلبت إذا ما دي جوتة ويحلها كشوي حدا ما ولا ودي إلا بقول باورا لبعتين بريتاج هذا اللي قد بي وصحوا الوجود بي اللي جالس كبعدي فوضى هاد هذا نوي مادين لمن كهذا مقعد ولا شيء يصير تشربوا يعرب لمن كاسوي هذا أنا قاعد كان لعبتنا كقاضينا أمني سنة سوقنا أنا قاعد عشاننا حكمها جاي سيدي يدتك ودليان وحش شوقان يقبروا وينه إلا بلوجا أنت سيد شوقان أو يقبروا وين وسط ما إلا اللي ماشى اللي يرى عرب مولى الكاسي شوقان waxay keeneen waa niman sumatalida kuwa kula maam lacagtan qaadayna anaga gudoomiyaal ah lacagta baar markii laga qaado baarka su'aal leeyahay moota laga daba qaadanaya lacag baan la weydiisanaya daroolkii la afduubanaya duura la tagaya wala liif garaacaya kii lacagta ka qaaday hadda u dacwooto waxa kama qabo waxay dantu ugu kalifaysaa ninkii aadaara la dilaayo liif la dhacay
ama hooyadiis ama xaaskiisii ama walaalkiis ama ninkii baabuurka la wacanaya ilaa waa qof bilaadan la dilayo sidaasaan waxaan ku luubnaa haddana lacag baada annagoo haddana intaas dhiibana waxaa yimid dil inay nafta ka qaadaan oo dilaan 5 xabanaga ku dhuftaan bishaan gudaheeda hadda waxay dileen 2 darawal bishii hadda tobnaad dhamaadkeedii inay aadaan u maleynaa taariikhdii mahaya 2 darawal ay dileen midna 9 saac galin ay dileen midna subaxdii 2 saac ay dileen waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in dhibkaas wadadii waa xirantay wadadan waxaa mari jirtay maanta markii uu yartaa 100 gaari oo baawta transitka loo yaqaan oo xamuulka iska daamanay baska iyo wax rakaabka 100 baawur waa mari jirtay maanta oo yuura taraag iyo taraakara oo xuduudaha u kala socdo hadda xalay iyo shalay iyo maanta waa joognaa 2 baawur ma marin waxayna u xayirantay amni la'aan amni darro isbaaradaas aqalka faaca ay u xayirantay waxaan maxkamadda sharafta ka codsanaynaa iyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wadadaas amni in la kaga dhigo ilaahay amni keeni kare in dadka laga wareejiyo dadka Soomaaliyeed lagu soo baxo dhibka iyo dilka dhaca meesha ka jira dawladdu ku soo baxdo intaasan ka codsanaynaa والله wadaan hadda mid afduubka iska daayay $500 ka baan lagu qaado waxaad afduubkaada ku tala gelin maalin walba qof waxaad arkay suuqa wareegayo la baawrkii laga haysta darawalka laga afduubta taasaba dhibaatada halkan hadda afgooye iyo wala weyn dhaxdooda sidaanay mar noqotay guutada ku soo baxday ciidanka militariga ku soo baxay waa laga nadiif ka waa waxba lagu afduubto waxna lagu dhaco baawrku 6 saac ma noo socda maanta ilaahayna hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida wax badan maqla jirnay oo maanta noogu timid deegaankeenii ilaahay baa horta maanta iskale ayadoo gaadiidkii iyo dhibaatadii iyo wixii gaadiidka lagu hayay maanta ay taagan yihiin horta awalan waa idinka mahad celinaynaa maxkamadda sharafta leh daaniyan waxaan moodaa annaga gaadiidkii waa naga xariman yahay waddadana sida la sheegay haddeer baabuurtii waa xarimantaa habeenkii 200 gaari meesha mari jirtay hadda gobolka Baayo kale ilaa gedo baabuurta waddada halkaan u martaa badala dadka shacabka inta adeegsadaan haddana lama maro inta wax dhifa mugay lama maro waxaan loo mari waaya cabsi waay jirta ereedan hadda wala weyn oo kale markay nimankaan ka howlgalayeen wixii ka horeeyay waxay ahaa jirtay waa loogiyaa taariikhda ciidanka mooryaanta waxa isdilayay qabaylka waysan si nimankaan u yimideen khayr Allah siiye waxbay qanoo qabteen fiican oo la taabo karo naf iyo maal waa ku waayeen shaqo fiican oo la yaqaano ay haddana shacabka gaadiidka ay noo qabteen oo wadooyinka noo qabteen waana ku maasiyay kortood intee san iman waxay ahaa jirtay kuwa ka dareed meesha laga sheegay way ka daraa jirtay saas ayaguna naftooda miina la kacdo mid ku dhamaadeen ayaga dhamay laakiin aakhirkii waxay oo keeneen meel amaana oo caawo baawurku meesha rabo inta ku baakintaan saxa kara hantidii waxa lagu qaataa baawurta lacaga cid saa u fiiri kartaa ma jirto alxamdulillah waa wala way ka bilow ilaa afgooy dhibaatada marka annaga jirta haddeer oo gaadidku waxa niman yahay waa wadada maanta ilaa baa ma iskale maxkamaddu waa joogtaa waxna naga badhigayirida wuxuu ninkii iga badhigayirida ceelka igu ridin wax waa maqasheen laftirkiina wala socotaa waxa meesha ka jira oo waxba idinku saagana laakiin annaga ka gaadid ahaan waxaan codsanaynaa maxkamadda sharafta leh ee ciidamada qalabka sida maxkamadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in wadadan amni la kaga dhigo oo loo furo shabeellada ka sheegaysto waa wala weyn ka bilow ilaa leego area leego waa nimankaan hubaysan oo macawsiley lagu tilmaamayo qabiilka hubaysan oo meesha degan waxay degan yihiin areadan adigu wala weyn iyo inta u dhaxaysa haddii meesha aan sheegayo ay ka howlgalaan meesha la yidhaahdo leego dhinacaan baabuurta kii xataa leexdo halkaa marana waa la soo qabsaa kii mara barmuudayana waa la soo qabanaa kuwa xataa ashabaabka dhex mara ay ka soo qabaayaan ay keenayaan meelaha ay ku dhibaataynayaan keefkada marka waxaad moodaa gobolladii Soomaaliya sida madaxda iga horeeyay sheegeen baabuurka ka yimaad berbera inuu maanta badeecadooda ay timaado bay waxaa kalifay oo macnaheedu ismaariika way badeecadii muqdisho ka soo degayday waxay ku xanimantaa bakaaro muhiimadda intaas ah ugu weyn in baabuurka Itoobiya soo dhex maro oo geda yimaado raashin geda laga soo qaado bay la keeno aan maray marka dambe waxa la keenaa haddana afgooy wax ka dhamaan lama cabasho aad u bisan ma jira hawalkun halkaana kula kula baladoog waa xildhibaan xildhibaan federaalka halkaana kula kula xerada baladoog la kula kula oo tay guutadu nala fadhiisii oo cabashada u sheeganay wadada aan markaas ciidanka la keenay iyadoo cusbeeyay ciidanka uu keenay
oo checkpointyasha la soo dhigayeen aanu nimid maya waa ka sii darta erkelaad waxba iska bixiya lacagta dadka la macaamila hadda labadan darwal oo la dilay mid ka mid ah gaar aan u leeyahay waday waa la dafay waa la watay lacagtii midna la isku fahmi waaye xilli aroor oo la jiifo telefoon la qabanayna way ahayd ninkii saasa loo dilay hadda qof marqaati oo markii la joogtana ma lahayn waa la dafo waa la leexsan ninka meelaha hooda la geystay anagu shacab aan nahay ma hubaysnin ganacsato aan nahay qoryo ma wadano marka waxaan rabnaa in waxaan ka qaado ama baabuurta qoryoon kugu sharciyo noo siiyo anaga nimanka la macaamiltamayna oo iska dhacanayna oo magafna ma wada karo dii maanta qoryo nar siiyo noro ogolaado dii saakay aan dawlad anaka inta roo imaatay aan u geensanayno wixii cabashaha aan qabno aan helnay waa ilaahay mahadi waxa wiilkaan baabuur waday wala weyn wuxuu nagu soo maray habeenkii fiidkii wuxuu seexday meel wala weyn ka tirsan oo la yiraahdo xarasheenaha subaxdii uu ka baxay wuxuu tagay bari weyne meesha u sokaysa ee la yiraahdo Carmoole meeshaas oo ka leexday nimankaas macuusleyda oo gaaljaal ayaa jooga ka leexday wuxuu u leexday waqooyi markuu u leexday waa uu sii socday meel la yiraahdo lebiga baanyada oo aan u dheerayn bari weyne marka uu marayo ayaa niman cilsheen ay hortaageen baabuurkii raggii la socda waxay noo sheegeen markay hor istaageen oo inta degaynin u tagay oo uu soo laabtay baabuurkii markuu soo galayna xabada inta lagu soo rutay looga dhiftay wadna intaasoo markay dhacday waa ay ka tageen hadda wax kale oo mataadku waa safar xabadii markay ku dhufeen way iska bixeen nimankii taas markay dhacday telefoon la soo diray baabuuran dirnay baabuurkii wuxuu ka soo qaaday meeshii ninka lagu dilay si loo sii waday degmada la keenay waa la sii waday si ay dhiyaan la geeyay waxa la geeyay isbitaalka Madiina la yiraahdo intaas ka bacdi ninkii waa la duugay intaas markay dhacday ayaan waxaan raadiye maagnay dadkii dilay waxaan ka bilownay nimankii koow meesha uu joogay macuusleyda oo gaaljaal meesha joogtay aan ka bilownay nin caliyare lagu sheegayo meesha uu jooga la leeyahay u tagnay waxaan ninkii yaa dilay waa goobayahu leeyahay waa goobay laba bari markuu na soo celceliyay oo noo labadaas bari oo soo laalaabayay oo aniga ninkii waa aan waayay waxaan idin tusayaa odayaal aad kala xiriirtaan nin odaya oo hadda anagu aanan aad u fahansaneen oo noo keen ninkaas Cabdullaahi Abax ayaa la yiraahdaa ninkaas markuu noo keenay wuxuu yiri ninkii adaka keenay kiiskaas la xiriiray waxa nimankii sidii aan uga sugaynay waxa dhacday dagaalkii ka dhacay tuulada Barweyle la yiraahdo anagu nimankii ka sugaynay waxaan noo labeeyay oo laba noogu noqday kiiskii Barweyne ka dhacay oo xasuuqa iyo dhaca iyo barakac yeeshay cabashadanadu sidaas ayay ku aadan tahay oo dadkii la dhacay qaarna la dilay qaar la barakacshay maalkoodiina la dhacay waa dadkii Barweyne deganaa oo ayaan wala dilay maalba dhaweed anigu nabadoonka habar gidiroo wala weyn jooga ana taliyaha saldhigga booliiska Walaweyn kan daraawiishta degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa maxkamadda u faahfaahiyay faldambiyeedyadan argagaxa leh ee maanta laga garnaqayo iyo sida ay uga falceliyeen markuu ugu horeyso 13 qofood waxaa ka horeeyay laba dhacdo oo ka horeysay 3 dhacdo waliba dhacdo waxay ahayd beer ay leeyihiin reer hubeereed oo sisin ku taalo yaa waxaa weeraray reer Yaagbarweyne qolo milisyan oo ka soo baxay Yaagbarweyne beertii dadkii joogay xabadeeyeen waxay sameeyeen beerta dhan boodkeeda wareegeeda dab ay ku qabteen wax alaal wixii xoolo meesha la arkayna way isugu geeyeen markaas ka baad yaa xoolihii waxay ka kahaysteen 70 neef oo ari iyo loo isugu jirto falkaas markuu dhacay anagoo laamaha ammaanka iyo maamulka isugu jirno yaan ka daba tagnay beertiyan tagnay waa aan soo fiiranay waa soo laabanay nimankii beerta iska lahaana ayaga intay baxeen waxay qoonsadeen xoolo ari oo 124 neef ah waxay geeyeen tuulada Fulay la yiraahdo meeshii dhamaanteen anagoo maamulka in laamiyi amniga aan qofna ka maqaneen ugu tagnay waxaan u sheegnay inaan xoolahaas la taaban karin ayna ka soo wareejiyaan
maamulka degmada iyo laamihii amniga wayna naga yeeleen way naga soo wareejiyeen howlihii dadkii iska lahaansiinay dadkii waxay noo sheegeen inuu howlo ka maqan tahay oo tira adiga 80 neef kuwaana waxay sheegeen 70 neef inay ka maqnaayeen maamulka dhan laamihii amniga aan fadhiisanay waxaan kala balanay inaysan hubeerna aysan gaaljeel ari ku lahayn gaaljeelna uusan hubeer ari ka lahayn oo inta maalintaas maqneed oo maamulka laga rabo aan dib isugu tagayn ilaamihii amnigii aan wareejinayn howlahaas annaga laga rabo aan dawladda la soo tashanayn kabacdi waxaa dhacday ayadoo arrintii taagan waxaa dhacday haddan reer Yaagburin way soo baxeen waxay ka haysteen makiina agaf beer fasho imoota la bulgaadlay reer Dudumay ayagan way soo baxeen market aanu waday ka haysteen haddan reer Dudumay ayagan reer hubeereed reer Yaagburin wayna soo baxay moot bahashan agafta beeraha fasho yay qaateen saddex oday oo moota la bulgaadlay wataana doontay waana ku darsadeen saddexdii qofood ee mootadii la bulgaadlay ahayd haddana laamihii amnigii iyo maamulkii sidii aan gurmad ugu sameynay dadkina waan soo daynay agaftii mootana waa soo celinay aygana gaarigii aanay saarneed waa soo celinay waa ku kala wareejinay haddan dhowr beri ka bacdi reer Yaagburin way soo baxeen nin hubeer ah oo beer falanayo adii saddex qof ay ahaayeen yay soo weerareen mida kilid habad ka galiyeen oloosha ka soo baxday way laabteen oo meeshooda ay ku laabteen ninkii aan soo qaadnay isbitaalkan keenay anagoo laamihii amnigii maamulka anaga isla jirno ninkii aan daaweynay waa u yeernay ninkii joogay markaas maamulkana la joogay oo Yaagburin xageedii ahaa waxaan u sheegnay ninkii kiiskaas watay oo ninka habada ku dhuftay oo magaciisa la yiraahdo Nagaar Tuuray reer Yaagburin waa haa maleesiyada ninka habada ku dhuftay ninkaas watay waxaan u sheegnay inuu baxo Yaagburin tago Nagaar Tuuray oo soo qabto habsiga keeno gudoomiye ku-xigeenka maamulka ka tirsanaa oo reer Gaaljeel ah oo walweyn nagala tirsanaa waa tagay ninkii u tagay meeshii istaagay nagaarkay is arkeen adiga dadkii deegaanka dhan ka soo baxay hal nin wadaayo walweyn la geynay ma jirto adiga lafaaq iska baxaali waa noo imaaday asagoo faaruqiisa ah arrintii markaan su'aalnay laamaha amniga anagoo fadhino maamulkeena xafiiska degmada fadhino yaa waxaan su'aalnay maxaa dhacay ninkii aan ku dirnay gudoomiyaha aawe waab isla joogteen waa is aragteen ninkii maxaa u keeni weysay maxaa noogu wada wuxuu noogu jawaabay waxba kama wado anay waxaa meesha ka su'aalay markhaatidayna gudoomiyaha uu fadhiyo gudoomiyow arrintan haddaan maalin walba intaa wax la haleeyo aan kor ka fiirino aan qofna sharciga loo horkeenin arrintan tilaabo laga qaadin dhibaata ka dhici doonta gudoomiyow arrintan u istaag naqo ninkii keenana haddii kale aan israacno labadeennii aan soo qabno wixii mas'uuliyad ka imaadan aan wada qaadano waa i diiday subax oo u dhuuntay xamar gudoomiyihii xamar markuu saan u tagay qolo kale aydan is abaabushay war la yiraahdo war Usmaan yay tageen daday aruuriyeen adiga tirada meeshana looga sheegay markaas warta waxa lagu dilaalay 13 qofood laakiin ma aan arkin aniga meesha waxa ugu tagnay anagoo maamulkii laamihii amniga ah inuu meesha dhiig badan yaalay hal neef oo arina meesha yaal horta intaanan warta aadin aniga laamigaan istaagay wax alaalo wixii meyd ah ayaa Yaagburin aan u tago aan soo fiiriyo sawir aan ku soo qaatana waa la iididay Yaagburin ma soo gali kartidaalay waxaan codsaday mid in sawir la iga soo qaado oo la ii soo diro waa la iga diiday waa booqsanahay qof sawir ka qaadi kar ma jirtaa leeyahay laamigaan istaagay waxaan codsaday nimankii dhaawaga ahaa in baawar la soo saaro isbitaalka walweyn looga keeno dhaawagii baa la soo qaaday walweyn markay soo istaageen waana loo diiday haddana in isbitaalka geeyno laba wiil aad ugu darneed dadka markaas la wadaan hindhayga ka arkay 6 qof ay ahaayeen 6 qof aan la waday dhaawac 6 dhaawac aan la waday 3 gaari oo barobox amin laba u saarnaayeen waxa waday reer Yaagburin oo Yaagburin baa war ka soo saaray markaan saa u fiirnay laba wiil ugu darnaa labadii aan ka codsaday in gargaar loo sameeyo isbitaalkan geeyno dibna hadda rabta aan diyaar u dalbi karno way noo diideen maadaama gabdho wadeen arrintiina ay arrin buug ka dhacday ahayd haddaan markaas aan xoog ama farax la galno ama dhib kale meesha tii rabba ka timaada hataa waana loo eensanayo waa fasaxnay ayadoo hamar gaarinna laba dhintay labadiiba waa dhinteen ayadoo hamar gaarin dhaawacii waxaa soo haray 4 afarta
hadda waxaan la soconaa inay fiyow yihiin horta anaga wax meesha aan ka aragnay intaas ahayd markaas ka bacdi way noo noqon weysay inaan meeshaan joogno meesha ma dhowa baabuuraan qaadanay ciidamadeenaan qaadanay waa baxnay waxaan tagnay meeshii oo falka ka dhacay waxaan soo aragnay hal neef oo ari ah waxaana loo sheegay inuu geel badan meesha ka dhammaaday ari ka dhammaaday hal neef oo ari ah yaan ka soo aragnay dhiig badan meel uu ka da xabadiyaan soo aruurinay saldhigaan keennay sawiradii videogii wixii aan ka soo qaadnay ee adeymihii yaa waxaa la wadaagnay madaxdii naga sareysay oo booliiska waxay ii sheegeen meesha in uu ku dhintay 11 qofood laakiin markii dambe markaan raacnay ay noqotay oo intana loo sheegay dadka nimba rabood uu gudbinayay raboodka ugu dambeeyay macquul amuu yahay aan isdhahnay inay dadka meesha ka dhinteen ay ahaayeen 9 qofood labadii aan arkay oo dhaxda ka dhintay markii lagu daray 11 qofood ay noqonayaan laakiin qof dhintay oo miid ah aan kor istaagnay ma jirto wixii aan codsanayn waana loogu diiday oo sawir ah hal in looga soo qaadaa waana loo diiday dadka inay ahaayeen 9 qofood falkaas geystay saddexna daraawul ahaayeen 6 qofna ay hubaysanaayeen 3 mootan ay wateen falkaas dadka geystay taas waxay ahayd taas markii dambe markay ka soo wareegatay adiga muddo adiga 2 toddobaad ama 1 toddobaad oo kale anigoo joogo Baydhabo oo fasax aaday yaa waxaa laga dilay ninkan owli baadidan oo yaa barweyn eerideeda asagoo xabad lagu dhuftay oo naftana ku jirto yaa mooto lugta looga soo xiray waa la soo jiiday yaa barweyn la keenay markii la jiiday nafta ka baxday yaa barweyn markii la keenay asagoo miid yaa meesha la keenay markii dambe anaga ilaamihii amnigii meel walba anagoo iskaashanayno waxaa noo suurto gashay ninkii in la soo qaado oo na looga keeno halkaas olooshan waa jeehneed gacanna waa ka maqaneed marka gacanta laga jaray oo argada lagu xiray olooshan waa la qalay dhagaxyaa la soo geliyay gacanta waliba inay tan bidixda eedan u malaynaa markii saan u yaalay gacan yaa ka maqaneed oo kumbut ah yaa ka maqaneed olooshan waa ka jeehnaa falkaas laba beri ka bacdi oo jimca ah anay markii warkaan dhacayba horaan ka soo orday habeenkii ticket diyaarada hata qof kale aan bariyaan ka reebtay maadaama meeshii uu kale oo ku dhacayo oo wax kale inay magaalada dhexdeeda ay ka dhacaan laga yaabo ay yaan soo orday markaan imaaday dadkii aan u yeeray waxaan inaan magaaladan eerideeda qofna qof ka taaban karin wax qabiil muujin ama abaabulna meeshaan laga sameyn karin baabuurtan yaagburweyn toos wadada u maraan idinkana amartaan dadkii intaan safarnay wayna naga yeeleen magaalada gudaheedii wax dhib ama buuq oo ka imaaday ma jirin ayadoo 2 maalin ka bacdi aan joogo qodba ay tahay masaajid ku jirnaa waxaana loo soo diray qayladaan in la qabtay qof ya meeshaan la yiraahdo gareeri lagu dilay salaadii aan galnay markaan ka soo baxnay waxa la yidhi waaba ka daranay waaba la gubay iska markii waa orodnay anagoo maamulkii dhammaanteen laamihii amnigii bartiyaan tagnay waxaan u tagnay ninkii oo wax yar ka soo horay welina gubinaay wax yarna ka soo hareen qof la joogtana aanan jirin kaligiisa ninkii aan dabkii aan ka daminay asaga dhamaadayba wax yar ka soo haray ninkii aan sidii maamulkii aan ka soo qaadnay ku aasan arintaas markay dhacday waa soo baxnay magaaladii aan soo galay magaalada markaan soo galnay waxaan aragnay meel walba oo video yaala oo la duubay oo lagu dul qaylinayo ninka dhagax ku dhufanaay wax alaal wixii la arkay waxaan la wadaagnay madaxdii naga sareysay madaxdii markaan la wadaagnay amar waxaan nagu siiyay ilaa in dadkii meesha lagu arkay nolol igeerab aan ka keenay habeenkii aniga ugu dambeysay gudoomiyaha gobolka wasiirka amniga iyo taliyaha oo qadka iskula jiro yaa waxay ugu amreen hadda intee joogta walweyn dhaqaaq 24 sano gudahoodii haddii dadkii dad ka mid ah oo falkaas geystay aad saldhigga keeni weyso adoo saldhigga ku jira aan kugu imaanaalay habeen ay tahay waa istaagay waa la bastay mar walbana waan wargeliyay in dadkii aan keenay gudoomiyaha la wadaagay wuxuu iga amray inaan shaqadii aan sii galno laamihii amnigii nala shaqeynay dhammaantoodaan u sheegnay waa baxnay waxaan tagnay meeshii falka ka dhacay meeshii oo waxaan tagnay laga kala qaxay wax yar oo qoryaalay ah ay meel walba joogaan ayagana naga dhuumanayaan
waxaan adeegsanayay oo ila socday talihii daraawiishta gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada falka meesha ku dhacayna meeshay ku dhasheen dadka geysteen waa dadka ay ugu dhasheen si aysan anay keligay la iga dadin ayaga telefoon dadireen oo dhahan ma idin ma haysano saan waay inaan la kulannaan rabnaa inaan aragnaan rabnaa ogow waxaana la yiri aaw qof aan arkayna ma jirto waagaha idin baryo meeshii dadkii oo ugu muuqday sida ninka la yiraahdo beema oo kale sida ninka kale oo asaga dhinigii isla socday sida wadaadkan oo kale tuulo gooni ay lahaayeen oo tuulooyinka ka mid aheen yaan geesiska ka degnay toosha laga dhax ifinayay waxaan isdhaanay aaw haddaad gashaan habadaa dhici karto qof shacab wax gaari karaan waagaha idin barye ogow salaad subax anagoo salaadii ku jirno hal raqadood aad ku hal ii dhiman tahay saban madax la ii mariyay oo nagu bilaabatay xabad anaga markii waxaan u qabnay hog habeenkii waxaan soo gaaraysay ay nimankii hore ay duurkaas ku jireen ay soo galeen oo 12 dhowr qof laga eedaynay dhimashadoodii ay kuwii inta is abaabuleen ay sheegeen inaan taliyaha saldhig eeridaas soo gali karin hadduu soo galana la dilay ani ayaga u maleynay marka waxaan gudbiyay madaxda iga sareysay meel walba u gudbiyay inay nimankii xabad igu bilaabeen waxa la yiri wax alaalo wixii dhinta ma ogi inta kalena ayagoo nool noo keenay waaga markuu toos baray waxaan arnay ciidamo 500 oo geesaska naga hareeraysan oo habad naga socoto ayadoo habadii waaga markuu si toos u baryay nimankii dhinac ay isugu aruursadeen dhinac ay nooga baxeen ayadoo habadii socoto wili goos ay socoto yaa waxa soo istaagay labadan qofood ninkaan oo qoryahooda wataan maya horta kana noo imaaday kan ninkaana noo imaaday marka dhar aan videoga aan ka aragnay uu watay aniga ma garanaynin waxaan u yeeray gudoomiyaha arrimaha bulshada asa ninkaan ninkii video ku jiray miya waa asagoo ina waa qabanay gaariga saarnay habadina wili way dhacaysaa waa qabanay gaariga saarnay ninka markii la falgalay oo la rafanayaan jaakad midow u wateen jaakadii aan ku aragnay marka dadkii asaga la dhashay oo si gooni u xogay yaan u yeeray waxaan iri ninkaan ninkii miyay waa asaga idin waa qabtay ayadoo wili habad dhacaysa gaariga yaan saaray dhinaca u soo baxnay meel ay dad isugu badnaayeen saana u soo istaagay odayaal badan oo odayaal dhaqamaad iyo dada meesha ila soo istaagay markay ila soo istaageen haddana nin ila socday ninkaana inta ii soo istaagay qorgiisa booshkiisa wata ninkaan istaag kalar ninkaana inta ii soo istaagay markuu dhinac ii soo istaagay nin ila socday oo asagana ay qaraabo yihiin yaa dhabarka iga taabtay ninka dhinacaaga taagan ninkii waa ani markaan saa u jeestay ninkii agtayda taagan dhinacaan u jeeday qorigaan dhabsi habadna wili way dhacaysaa waa qorigaan ka qaaday haddana gaarigaygaan saaray intaasi waa iloobay maalintaas oo aniga habeenkaas amarkaana la siinaayo galabtii ka horeysay ee aniga oo dhan meesha tagnay yaa waxaan soo helnay ninkaas iyo ninkaan ikaas kale ikan ninkaan dharkaan uu wato kulli hadda videoga waa ka aragteen asagoo meesha ninka lagu gubayo taagan yaa videoga ka aragnay markii dadkaan soo aruurinay asagoo wili shaatiga iska bedelin oo wato yuu nala soo istaagay aniga videoga yaan baaray ninkii markaan saan u fiiriyay waa ninkan waa soo qabanay intaan kale laakiin waxay noo sheegeen inay goobta joogeen oo tuuladaas qofba ka maqneen markaas meesha taagnaayeen laakiin gacantooda wax ka geysanin ay meesha taagnaayeen yay sheegeen dhammaantoodii ninkaanna wuxuu noo sheegay aniga maalintaas ma joogin oon dhahay videogaan yaa waayaan dhahay sawirkaan soo adiga markaas wuxuu noogu jawaabay haddaad i sawirteen saan kuu sawiraynaa videogaan adoo ninka kor taagan ninkii aawaya dhahay had ninkii aawe adoo ninka kor taagan soo kan ma id waa iga aamusay kan asagoo shaatigiisa wato wiliba sawirkiisa ilaa hadda waa hayaa waxaan dhahnay sawirkaan soo adiga ma markaas wuxuu noogu jawaabay aniga maaha maalintaas baadiyan jiray markii dambena wuxuu noogu jawaabay haddana dadkoo dhan taagnaa anigu waan taagnaa markaan sawirkiisa aan tusinay intaas markay dhacday labadan habadii ayadoo socoto qoryahood wataana meesha ku soo qabanay nimankan kalena ayagoo 5 ah maalinta ugu horeysay aan soo qabanay haddana maalinta noogu dambeysay oo saldhigga anagoo joogno yaa videogi markaan baarnay yaa waxaan ka aragnay adeer markaas wiilab nala taagnaa oo si fiican u kasaayay oo saldhigga ku tirsan booliiska lambarkiisan haay markaas ninkaan anaa lambarkiisa haayo waa wacnay intee joogta walweyn oo nala joogay markaas walweynaan jooga way intee taagan tahay
meeshii aadna ku soo qabanayaan ka keenay marka asaga waxba ma qarinin wax walbo markaan keenay wili video aan ka hayna wuxuu noo sheegay saaxiibadii ay ila joogeen inuu meesha taagnaayay ninka dhagax saa intuu u qaado ninka madax ugu dhufanay oo ag taagnaa asaga xataa uu dakhri lahaa asaga afkiisa nooga sheegay laba video saddex video aan ka hayna ninkan asagoo ninka saa u jiifo nafta ku jirto lugihiisa fadhiyo oo wareysanayo video waa laga hayaa ninka asagoo lugaha markii lagu dhufanayo godka madax looga istaagay asagoo hortiisa taagan oo qorigiisa wato oo hor taagan video-gu ku jira oo ninkan adeerka ah falka meesha ka dhacay horta wuxuu ahaa kaas aan dadkan ku soo qabanay waxaan raacaynay maadaama falka uusan magaalada ku dhicin nin walba aniga waxaan ka soconay oo maadaama haddana dadkana si gooni ay baadiyada warkaas uu ku dhacay oo dhibaatada ka dhacday nin walba meeshaan ku aragnaa taargeedigi noo ahaa waxaan weydiinaynay ayaga nin kamid ah ninkaan ma taqaanay ninkaan hebelaa la yiraahdaa kan ma taqaana hebelaa la yiraahdaa kan habadaan ugu istaajinayn dhammaantoodna wuxuu noo sheegay adeer inuusan qof meesha ka maqaneen laakiin ninka uusan habad lagu dhufanin oo dadka sidii bud loogu dhufanaay oo masaar loogu dhufanaay oo dhagax loogu dhufanaay oo nafta ka baxday intaasuu noo sheegay asagana hadda waa kana hal habad laguma dhufanuu dhahay dhagax bud masaar intaas lay lagu dilay dhahay laakiin sababta ay ayaga lahaayeen sababtoo ah ayagaa soo waday oo shacabkaas dhexgeeyey askartaana soo waday dad qoryaaladii ah yaa soo wadeen oo asaga uu koow ka yahay ciidankan waxaa taliye u ahaa nin abshir la yiraahdo adig saddexdaan qoryay wadeen afar kale oo hadda maqan inta aan meesha ku aragnay afar kale maqan had nin la yiraahdo biima nin la yiraahdo bakar ma barrow nin la yiraahdo jamaal iyo nin la yiraahdo abdalla garan maalda ha afartaas maqan ninka ushka garaayo ninka ayaga waxay ka soo qabteen meelahaas habaday kureen uu ku cararay war uu dhaxgalay biyahay ka soo dhaxbiyeen way garaaceen ayaga shacabka dhaxgeeyay ilaa bilaa dhamaad adeer waa la socday kama xarin meel wala video-gaas uu ugu jira hadalkiisi yay fahmi waayeen anay wareysi la igu yeeray laakiin ninka markii warta laga soo saaray oo la legdaayo oo madax loogu istaagay oo fadhiyay oo ninka oo hay ah wili haddana asagoo baraar laati ah oo dhulku ku dhacay oo naftada ku jirta aan hadli kadin oo hadal lagu dirqinay lugihiisa fadhiyay haddana asaga wareysanay video-gii uu ku jira waxna uu ogyahay wax walba marka fadhaadada meesha ka dhacday waa taas eelka arintiisi waxa u dhacday 2 maalin ka hor yaa wiil krishboy ah oo eelka joogo yaa niman Maleesiyaanka waxay dhaheen waa ka haysanayna nimankan waxay dhaheen ninka eelka inuu joogo lama ka xin karo waa ka xina waa la isku dhacay ko Maleesiyaanka midaa ku dhaawacmay gacan ana wacay nin la yiraahdo Al-Yaris yaan wacay waxaan u sheegay aliyo wax falka meesha ka socda maxay tahay arintaas waa daba galnay wiilkan aanu istaafkayga ahaa anaana daawaysanay dadkan waa hal marinay oo meesha laga weeraray wax dhibana ma jiraan weeyna 2 maalin ka soo wareegatay ninka la yiraahdo marxuumka dhintay oo ilka asal la yiraahdo wuxuu u tagay habeen iyo eelka tagay nin waardi ah abdimidoow la yiraahdo isqabteen wuxuu dhahay Allah aduu leeyahay iga tag hadayga meesha marka dhibaato ma dhicin waa ka soo tagay subaxii uu ku laabtay meeshii uu ku laabtay wiil abdimidoow waardi 9 saac ka wareejiyay oo meesha fadhiyo yay murmeen sidana loo sheegay kan qoriyo furtay waxa xabad mariyay marka uu bilaabay wiilka eelka joogay saacadaymi aan baarnay aan ku helnay ninka ilkaas marxuumka dhintay xabada ku dhacday asagoo dhacay oo si xiilay xabada kale u firdhiyay asagana shacab ah oo la yiraahdo magiisi hadda inaan liiska ka baaray noqonaysa oo shacab asagana xabadii ku dhacday kan waa dhacay kikal xabad ma gaarin marka oo eelka joogay dadkii soo ordeen meeshii la isugu imaaday labadii mid baa la soo qaaday kii oo wiil kale reer barbaara oo wuxuu ah reer daafeed ah gaariyana loo soo saaray saldhigan loo keenay mid kalena waa la soo qaaday magaalada la dhigay magaalada markii la dhigay kooxdan oo Maleesiyada oo baasleyda inta degan oo magaalada afkeeda degan yaa loo imaaday waxa la yiraahdaa daraad waxa la bad lagu dhuftay wiilkaas haddana ilka asaa la dilay inta lagu dilay eelka lagu dilay ayaga marka midig ma baleehan say u socdeen eelkay weerareen oo guri intay soo jabiyeen oo soo dhaxmareen dhanka kale ka soo galeen wiliba eelka saasa eelka habadiisa ka bilaabatay waxa meesha naf ku waayay
afar kale waxaa ka dhaawacmay 5 qofood waa tii aan isla taagneen oo aan telefoonada meel walba aan ka doodaynay ahayd markaan wacnay oo aan kala hadalnay anna aan la hadlay adna aan la hadashay oo liiri habadii jooji ma aysan joojin ilaa dadkii ay ka dhamaadaan meeshii aadnay markaa tagnay ninkii meesha ku gubsan aragnay ninkii aragnay alabaara ada galbiga galabtii ahayd markaa meeshii tagnay ninkii aragnay kadib waa baxnay tuuladii tagnay jawaan iyo darina soo qaadnay ninkii gud u qadnay waa soo duugnaa soo laabanay maalin labaad aan baxnay degmadii aadnay meesha oo ninkii lagu gubay dad fara badan oo soo qabanay awraysan qaar kamid inta ku jiraan bad inta joogaan degmadii keenay maalin labaad habeenkeed anagoo howlgal ku jirno nimankii ninka goobtuunka ku jirno anagoo meesha anigii taliye israacnay gudoomiye arrimaha bulshada meesha aan aadnay nimankii hoosh aan ku jirno xilli salaasuux ay tahay aan soo weerar noo soo bilowday wixii ka dhacay meesha xabada ka dhacday nimankii gadaal ay ordeen waa soo laabanay yaa ku soo qaban markaa 3 qof kale ya nimanka jacayl soo weerareen dowladii anaga barnaamij aan ka fulnayn hoosh aan ka wadna been ahaantaas saas waxna soo weerareen markaan nimankii xabada meesha ka dhacay nimankii way jabeen 3 qof kale soo qabanay waa keen degmada keenna ninkii la gubay marka oo la gubay qof bini aadan oo ninka macaan jiridiis ifood ma sheekay kara ninkii oo la dilay oo lagu waa maqlabas aqaltan aan ku baxnaa anagana jirid banaanaha ka maqla laakiin jiriis ma sheekay kara fiyaawad ma sheekay kara ilaha og dadkii hoosh ku sameeyay asiga ilaahay isoo inuu jirna inuu xanuunsan maqla laakiin ninkii in la dilay oo la gubay aan maqlo aan ku baxnaa arinta kale aa ka hadeystay suuli oo maleynaa suuli xilli aan lisoo magacaaway nin muxuu ahay baadiyo kuro jirha adhaaka giray dhaxdana joogay marka nin anaga xukumeena ma ahayn maqaranta isku sheego waa la soo magacaaway maanta soo magacaaway way imaaday maxaa dhaniyo daraawish ay soo magacaaway 3 cunug kula jirto iyo macal adiga daraawish ku soo feela meeshan qof aan ciidan qof kale ma joogay way hadal diiday woo baxay duurka ruusi gala meel shabaab markas imaado oo shabaab xukumo waay ilmo oo yiraahdo ma jirto 3 cunug ma soo wata 3 cunug wala taga 3 cunug ma iimaan kaligiisa ay imaado bas 3 cunug wala tag duurka la gala daraawish kuma dhahan 3 asal daraawish kuma dhahan daraawish ma iimaan wiigu ma iimaan daraawish asiga daraawish inuu soo daray xilliga hore daraawish kuma dhahay suuliga markii asiga aan soo daray oo horiyo kuma dhahay jiray laakiin markii la soo magacaabo marka aan u waayno 3 cunug la wiilkeen aan dhahay meeshan ciidan ku soo feel aan hayno way hadal diiday 3 cunug duurka la gala damban isma wacan mani iimaanin asiga ma sheegi karaan iimaanta isku kay dambeeyna naasi ma sheegi karaan maadaama aad daraawish ku deegaanka tahay ninkaan uu kala madidin staff ma wato waa la socota dhaqaalihiisa toosadiga adoo inta kugu yeesho ma yala ma soo dhaqaaqaysadaan dhaqaaqis lama socdo maanta isku kay dambeeyna deegaanka markuu soo galo maxaa sameeyay asiga deegaanka soo galay simaasiga baxay deegaanka ma soo laaban ma soo laaban deegaanka ma iimaanin maanta ana arkeen isku kay dambeeyna naasi mar dambe deegaanka ma soo laaban ولا هاكا إيمان قرير إيمان إلا هذا مش شيء كان قف يدير أنا ما أفرت شن كلمة نوجر تواي ما أنا شيء كان هبل ديل مليك قف ديل إلا هذا هبل أنا كرم مجرو قف هبل ديل أنا كرم مجرو واحد ماشي مكان التاني ما مغال إلي بدين سوري ما مغلين واسوق بني نينك ورت الجوج جري وورت الله يسوق بنا وحبا نومش نمك أفكار دوبنا ناي ناقة سوق بنا مش مقايد بشيء waxaan aydan nimankaas ma arkin mooto ku umaadeen afkan u doonay hibla ma dhihi karno dad waxa leeyahay maya ma maqlin maadaama taliin daraawish ah amniga la qaabsan saddex iyo toban qof hal war degmadii adiga amnigeeda qaabsan aamudi eeriyada lagu dilaayo waa taxana adiga taliin amniga ahaan hadda waxa taagan tahay ma qaabo xidri bal noo sharax waxa ku dafirayso markaas tiri waxaan aan ogeyn ma sheegay waxa uu sheegay markaa amniga yaa qaabsan amniga ana qaabsan yaa dilay markuumiinta 12 ka meesha 45 kilomitir noo jeeda meesha amniga sheegay anaga ma xukunno wax dilay ma tahay wax dilay ma aqaan hibla ma dhihi karo suulay ayaa dilay markaas meesha u dhintay suulay adig soo ma xukunno عقار سوق عقار صار كيف؟ سوق كان عيدا كان في عشر وقت الحلم المقولي جنا سمع
suuley maanta iskay dameen maanta laysoo magaca horey ugu sheeg mogtaani horey ugu sheegani أنا أقول شيء مقتل مية مع شيء سوليا سوليا سوق شيء أقول شيء ما عندي كو حق اللي هو وريجي أنا سكوي دم يقول هاي قول قاسة تقني عينك أقول هذا هاي ويجي بديني هرس يسكب هاي أنا أقول الحكومة جريمة مردومين تماشى سلودي يا جيس سوليا كان مشي كره أفرت شن كانوا مش مترو مجرد واتقني وابد الناس لا واسطني وقت nin ayaa degmadii aniga amnigeeda qaabilsanay lagu jarjaray lagu jiiday mooto lagu gubay dambiyeedkaas yaa geystay ninka ugu dambeeya oo la gubay nimanka yeeleen waa niman tuulada macaysle ah oo nimanka gaajada isdagaasanaayeen oo difaac meesha ugu jiray waa nimanka yeela anagana ma xukunno ciidankaas waxa dadkaas guud dad shacab waay shacabkii deegaanka waa wax dadka guud عندي فرق كنت في عندها كنت مايا انتو تونا لو سوقت كان فرق جرا كان فرق لكم ديغ انتو تونا لو سوقت واحد كنت مرة قفل جلستا قفل جلستا وان اوغاي او هبل انهايا ما جرت تونا لو سوقت انتو ودك والله ادي دش حيل waa ma dhigi karntaas si ilaahna loo ilos meesha waa tagnay dhacdo ka dhacdo maamulka ilaamaha amniga soo wada jirno waa soo wada aragnay way ka muuqdeen waa telefoonada dantii lagu wada tuuray ahayd waan soo wada aragnay oo dilka iyo gubka meena kala saar gubka dadka geestay dadka oo hadda neekata ay ka muuqatay meesha waxaan maqlay in waali lagu tilmaamayo aan maqlay waa ka ana kor tagay aan ma xaqiijin ma la hadin mana arkin ilo sigoo geeri oo guban aan meesha ugu sii tagnay miday abshir dhahan برو مدي دهام مد بيم أي دهان مقال خاطر نيوكا سوار سما أيوه حرا وار سما وار حسن بول ما كم قار مقال حسن بول نجانا فيديو إيجو ورسنا وجيدو الأركينين وار كا مكة بكر بدوما حسن بول أو قاري بوتو نعيسو بكر لا لازم داير يسار meesha oo falka ka dhacay labadan qoriyay wataan ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Cabdalla ayaa maxkamadda ka codsaday in dhammaan eedeysanayaasha ay ku xukunto dil toogasho iyo in maxkamadda ciidamada ay xirto taliyaha daraawiishta degmada Walaweyn oo lagu eedeeyay inuu qarinayo mid ka mid ah maleeshiyaadka 12 qof ku dishay deegaanka warta Cismaan ee degmada Walaweyn waqtiga ay nasiisay way ku maasan tahay maxkamadda sida ay u kala joojisay colaadihii meeshan ka soo socdayna maxkamadda way ku maasan tahay kala dhaxgalka ee kala dhaxgashay dadkii deyriri rabay ee walaalaha ahaa maxkamadda way ku maasan tahay haatanna maxkamadda kiiska u soo gudbinay waxa ka filaynaa cadaalad inay ka gaari doonto oo ah eedeysanayaasha maanta maxkamadda horkeena iyo kuwa maqanba mudane guddoomiyay kiisas kala duwan meeshan ka dhacay kiisaska waxay ka soo bilowdeen bishii 9aad 27keedii nin la yiraahdo Suuley oo shabaab ahaa oo sida shabaabka amal gafuurka u soo duubtay ayaa wuxuu laayay 12 qof oo laayay 7 qofna uu dhaawacay mudane gudoomiye Suuley fakad waaye maqana waaye laamaha amnigu waa ku raad joogan waarankiisana waa jaray mudane gudoomiye Suuley markii falkaasi uu sameeyay kadib waxa ku soo xigsaday sida musalsalka amal Suuley dadkii uu laayay niman iska dhigay inay maxaa la dadkaas ka damqadeen amal oo uu kamid yahay nin la yiraahdo Cali Riisow nin la yiraahdo uu kamid yahay oo yaqbar weynadaas durkeeda ku dhuumaaleysanaayo ayaa asagana wuxuu sameeyay faldambiyeedaasi maxaa kamid ahaa marka nin la yiraahdo waxa la dilay Cismaan Awliya la dilay caloosha laga baxay gacan laga gooyay kadib maxaa ku xigay waa la soo baxay nimankaana hadana waxay dileen nin maskaxda loogu jiro oo 33 sano waalana xanuunsana oo cadeen aan u hayno oo meesha ku xirnaa meesha ku daaweynaa la yaqaano ay soo qabteen waa jarjareen dab ay qabadsiiyeen nafta ay ka qaadeen waa jarjareen kaliya waa jiideen xataa wax walba oo falxuma ay ku sameeyeen mudane gudoomiye dad eedeysanayaashan iyo kuwa maqanba heer ay xataa lafihiisa markii ay karsadeen lafihiisa ay ku dhedheelaan ay bilaabeen mudane gudoomiye waa fal aan weligeed ka dhicin Soomaaliya waa fal ugub ah waa fal xataa dadka aan Soomaalida ahayn inagu caay karaan
waxa geysanaya waa eedeysanayaashan iyo kuwa maqan mudan gudoomiye suulay 12 qof oo horta dilay eedeysanayaashani waxay dileen inay dileen oo xanuunsan oo dhimirka looga jiro ee jarjareen oo gubayna suurad xumeeyeen Ali Yariis wuxuu geystay nin la yiraahdo Cusmaan Ooliyeen waa dileen ceel meeshaan ku yaalana waa gubi 4 qofna uu ku dilay ceelkaas 5 qof oo kalena uu ku dhaawacay asaga iyo maleeshiyada uu hogaaminay suulay iyo maleeshiyada hogaaminayaan 12 qof oo dilay intaan iyo kuwa kale maqanayaala oo cadeemahooda iyo sawiradooda iyo waxa dhinac soo bandhignay inay gubayno isugu tageen hal nin oo dhimirka looga jiro hal kood xataa waa ka roonaan waay hal xabo oo loo naxariisan karo mudan gudoomiye kuma jiro sidaas darteed mudan gudoomiye bacdama soo bandhigay cadeemo marag muujino muuqaalo dambi muujinadii hubkii ay haysteen falka ay ku geysteen maadaama soo bandhigay maadaama uu kiiskan u cadiyaa si clear ah mudan gudoomiye si fool xumaas magaca Soomaaliyeed magaca islaamnimo magaca degmadan wala weyn ay ku dheelayaan waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in eedeysanayaashan iyo kuwa maqanba ay ku xukunto dil toogasho ahna qisaastii marxuum Isaaq Daawud Maxamed sidoo kale maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaa ninka la yiraahdo Ali Yariis Ali Isaaq Guuleed ama lagu naaneyso Ali Yariis Fuad Ahmed Maxamed Cismaan Nuunow Ciise Cabdi Maxamed Canaan lagu naaneyso Xuseen Maxamed Qaasin محمد جني حراش دامي شكشيغو حسين جابو حسن قابة إساق داود دقو لمان مليشياتكي أفرتنين كود شعالك عالك الجبي عثمان أولين ديري إن محكمة شرفت لكو حكمتو دلتو غشاء أهنا قصاصتي دليلكي يا وعيدي يفلالك جبدها إيه كجستين تولد دماي يخبروا وين إيه كجستين درتين وحكمت محكمة دلتو غشاء نما كاسي وكان صلى على مجال tuulada dudumayna ma dhaafin yaaqbari weyneen ma dhaafin maxkamadda sharaftu waxa ka codsanay inay dil toogasho ku xukunto waarankoodana uu jaran yahay sidoo kale mudan gudoomiye eedeysanayaasha 12 nin dilay ee lagu kala magacaabo Yuusuf Aadan Xuseen Suulay Cabdullaahi Madyarow Ismaaciil Maxamed Abuukar Siid Cali Cabdalla Ali Maadi waarna maxkamadda u jartay 12 qof oo shacab ah oo aan wax ka galabsanin oo xoolo dhaqato ah xoolahooda dhaqanay ay dileen mudan gudoomiye todoba kalena waa laayeen waxa kale oo mas'uuliyadda kale ee gadaal ka dhacday ayaga mas'uulka mudan gudoomiye suulay markii uu dhuuntay oo fakaday abshiro meesha uu sii dhiibtay saadateen mudan gudoomiye waxa maxkamadda sharafta ka codsanaya dhammaantood in lagu xukumo dil toogasho si ay shacabka Soomaaliyeed u kala badbaadaan mudan gudoomiye sidoo kale mudan gudoomiye waxaan maxkamadda sharafta ka codsanaya suulay iyo ninkii abshir yaa xukumo waxa xukumo taliyaha mas'uuliyadiisa gudan waay dada meesha la laayay kuwa la dilay gudoomiye taliyo u yahay inuu sheegal rabo yiraahdo suulay ageysta falkan intan yaa dadka gubay abshira mas'uulka intaas dad u hiilin waay xataa maxaa qabanaa markuu ay taliyo ka yahay taliyaha ninka mas'uuliyadda loo dhiibay waa inuu dhaxdhaxaad ahaada laakiin haddii dhinacaaga aad la safato mas'uuliyad ma qaadi kartid wuxuu yiri hadda ninka la yiraahdo suulay aniga ma xukumo maxaa soo bandhigay maxkamad maxaa soo bandhigay markii xilka uu la wareegay dadku uu la wareegay ku jira suulay sidoo kale ninka la yiraahdo abshira sax xukumo sidoo kale ninka la yiraahdo ii sheeg ninka hadda u dambeeyay aan weydiinay ee gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada aan ku qabsanay asagoo la socda sax xukumo macnaha mar hore iga tagay yiri waa been shalay oo la socday gudoomiye maxkamadda soo bandhigi kara sawir shalay la galaa soo bandhiga shalaydaanu la socday yoo ku jira ninkaas ma taqaana mudan gudoomiye dadkii 12 dilay ku jira mudan gudoomiye ilaahay ma laga cabsado mudan gudoomiye in alla laga cabsada fiican xilkaan ahaysid iyo mas'uuliyadan u haysid si ilaahay kula ogyahay oo guutal raa ma gudo ka tilmo oo qabyaalada ka badan qabyaalada kugu Soomaa iska dhig toos ula safadhiin akalno suulay garbkiis istag ma aha qaban nimankano adduun waxa la weydiin aakhir waxa la weydiin mudan gudoomiye waxa maxkamadda sharafta ka codsanaya in taliyaha daraawiishta xilka laga qaado kow nimanka uu difaacayo oo abshir oo suulay oo ninka hadda staafku ahba hadduu soo xiri waayo oo isla hadda soo xiri waayo in booskooda asaga lagu bedelo oo asaga maxkamadda ay xukunto in xilka ay ka qaado in nimankaas hadda hadduu keeni waayo hadda staaf uu yahay ninka sheegoy 12 ninka dili waayo staaf uu yahay mudan gudoomiye hadda hadduu keeni waayo mudan gudoomiye booskiisa in asaga lagu bedelo asaga uu qaato mas'uuliyadeeda oo asaga loogu xukumo maxkamadda sharafta waa mahadsantahay qareenka eedeysanayaasha abuukaate hanad khaliif shalaqbeen ayaa duray eedda xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida isagoo bari yeelay muwakkiliintiisa una codsaday in la siiyo xoriyadooda mudana gudoomiye xafiiska xiraalinta waxa waajib ku ah
marka hore in uu iswaafajiyo falka dembiga iyo natiijada meesha ka dhacday sida uu qabo qodobka 110 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed waa inuu u cadeeyaa si aan shaki ku jirin ma dhacdo maanta ma dhicin xeer ilaaliyuhu wuxuu halkan la yimid oo project u soo diyaarsaday waxaan ku tilmaami karnaa waa khayro iyo sheeko sababtoo ah asoo khayraysan uu noo sheekiyay madal gudoomiye meesha waxa ka dhacay fal dil anagu ma diidanin inuu dhacay dil la dilay marxuum Isaaq laakiin Isaaq yaa dilay Isaaq ma rag maanta halkan taagana dil waa may waxa dilay oo xeer ilaaliyuhu uu halkan ka sheegay liibaan abikir oo biimo inay Cabdifataax Geesdir aaway maragana ma ah oo biimo Geesdir waa rag liiqaan waxay joogaan Dumaay waa ragii soo qabtay dilay jarjaray gubay waxa lagu haystaa nimanka odayaasha reer miyiga ah masaakiinta ah xeraaliyuhu ma keen cadeen muujinayso ama uu dhahayo daahira dilay Isaaq dilay Xasan dilay Maxamed dilay ma keen uu noo sheekay xeraaliyaha sheekada social media dhex taalo ee ku saabsan dilka marxuum Isaaq iyo xeraaliyuhu maanta wax uu la soo shirtay waxba kuma kala duwana sideedan markii maxkamadda hortaagay mudan gudoomiye waxa loo baahan yahay waxa lagu doodo inay noqoto qodob qaanuuni ah ama xeer ama aayad quraan xadiis intaas kuma doon xeraaliyaha uu noo sheekay oo kuma siin si qiiraysan oo Soomaaliyeed ku jirto noogu hadlay mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh caadiyan qofka Soomaaliga ah markii ay dhibaato dhacdo tilaabada ugu horeysa oo qaada waxay tahay inuu tago goobtii falkii ku dhacday muwakkiliinteedu maxkamadda horteeda looma keenin wax dhaafsiisan in ay goobtaasi tageen ninka odayga macallin waay asoo yaabano masaajidka soo buxuu yimid goobta uu dultay xeraali wuxuu yiri waa kaasa uu dhaanteena muxuu dhaanteena weeyabaya meeshuu tageen waxa ku soo Xasan Buule waa oday nabadoon beerle qori uu wato waa RBD waxa ku jirta laba baalood buuqi markuu maqlo soo baxay wuxuu isku inuu ka celiyo oo biimiyo la taageen wuxuu leeyahay ninka oday kidaay waxa loogu dhigay inuu dilay lama keen Xasan Buule shacabku dhufnaa lama keen Xasan Buule gubay lama keen qodob ugu weyn lagu soo eedeeyay waa 434 waxa loo siiraacay 71 oo ah wada jir macnaha si wada jir ah aad waxaad u disheen marxuum Isaaq Daawud mudan gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh hal cadeen ama marqaati nool oo maxkamadda horteeda ka marag furi karo inay marxuum Isaaq Daawud dileen muwakkiliinteedu looma keenin sidoo kale gudoomiye xeer ilaaliyaha iyo taliyaha saldhiga waxay halkan ka hor cadeeyeen in la yiraahdo Suule inuu yahay qaatilka ugu weyn dhibaatada geystay Suule hadda waa kuma Suule wuxuu ku tirsan yahay ciidanka daraawiishta laba bil ka hor waxa lagu wareejiyay taliyaha daraawiishta oo ninkan ah taliyahana mas'uuliyadda markuu xilka la wareegay waxa kamid ah ciidanka agabka saanada iyo goobta inta uu la wareegay magaalada Walaweyn waxaygeed mudan gudoomiye waxa joogo in ka badan 2 guuto ciidan xoog dalka ah ciidan daraawiish ciidan booliis mas'uuliyad oo bima laga soo qoon wada Dumaale waa may siyaas darteed si waafaqsan qodobka 115 waxaan maxkamadda ku codsanayaa in la baabiyo anagu markasta ma diidin in cadaalad loo helo marxuum Isaaq Daawud laakiin sax ma aha cadaaladu meel aysan jirin in la galiyo sax ma aha العدالة الإعداء كل ذي الحق حق قف كستوا إن حق هذا الشيء sidoo kale mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama xeer ilaaliyuhu uu ku guul dareystay mas'uuliyadii uu xeer ku saaray waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in la cuskado qodobka 112 xeer hab ciqaab Soomaaliyeed oo laga noqdo eeda insufficiency de la prova lama keen cadeen la'aan awgeed maxkamadda sharafta loo imaasantay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo wada tashi dheer yeeshay kadib ayaa amray in la xiro taliyaha daraawiishta degmada Walaweyn Dable Saleemaan Maxamed Yare oo gabaad siiyay eedeysane Maxamed Aadan Ibraahim Nuunow kana mid ahaa maleeshiyaad 12 qof oo xoolo dhaqato ah ku dishay deegaanka Warti Ciise ee duleedka degmada Walaweyn isla markaana ka fakiyay laamaha amniga iyo hay'adaha cadaaladda Saleemaan waa xiran tahay ilaa aad ka keenayso ninkii asgariga ah ka keenayso asgariga u yar noo keen Cabdiraxmaan Gacan warbaahinta qaranka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose